kaalinta aftahanimada iyo balaaqada iyo qoraalka iyo maaragtay gobayga waxyaalahaas oo isku darsaday ayada laftigeedu waxay ka mid tahay kullama qofku uu mawaahib far badan ilaahay uu siiyo jacaylkiisa iyo xubnimadiisa ayay qayb ka tahay culimada kale ayaan boos ku banaynayaa aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu شيخ مجرو بحر ملنا جزاك الله خير قاضي كناس قيمها بدن سوجي دي سي نسأل الله أن يجعل في ميزان حسناتك إن شاء الله يعني شيخنا إله سبحانه وتعالى هؤلاء حرستو دمانتين سمري من الله نغسيو شيخ وحو قري وحكا بدن بقول يتضباطن كتاب مركا علم النافعة وإلى قيام الساعة أيو كتغي إن شاء الله ومتقانا وحيال حدي حاليا موسوعة دي سنة هذا وحان ملنا هنا يسير مانيسو وموسوعة دكتور يوسف القرضاوي هذا يكتب كمان مانيسو مركا إله سبحانه وتعالى بدء كو أنفعي ولو كلمي هي بدء كتاب أخريبة مارتي وعن أرضي واي مركا إن شاء الله جزاك الله خير شيخ أحمد سودو بارك الله فيكم جزاكم الله خير شيخ محمد أدبض ما تنتهي علماء دور أيام نسوق قادي waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo or diibaan oo isaguna soo galay khayr allah siiyo waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo sidaas la eg sheekh Tayyib iyo sheekh Muhyiddin yani Abdul Hayy baa ka wada sheekh Abdul Hayy sheekh Aadan sidoo kale sheekh Abdurrahman Bashir ayaa ina soo gaaray isagna jazakallahu khayran waxaan marka Dr. Usman oo uu ka dhacayana uu inala joogaa day u suuroobi weydo wuxuu inaga soo wici doonaa WhatsApp-ka insha Allah Dr. Liban ba degdegsan inaan soo dhaweeyo haddii uu aabaydmo jazakallahu khayran طبعا waxaan codsan lahaa culimadu khayr allah siiyo maxaawir kala duwan sheekhu noloshiisa qaybo kala duwan cilmiga marka laga hadlo marka jihaadka laga hadlo marka siyaasadda laga hadlo toosinta bulshada iyo akhlaaqdeeda kutub cidda uu qoray oo markaa la heli karo loo noqon karo waxaan rabnaa markaa bal in meelaha la isdul taago jaanibka fikriga jaanibka dhaqaalaha oo aad muhiim u ah marka qofba meeshii uu muuqata in uu maaragtay ka darsan karo in uu ka taabto insha Allah waxaan hadda soo dhaweynayaa Dr. Liban codku kaa xidhan yaan u malaynayaa ma maqashaa Dr. Liban codku kaa xidhan yahay doctore codku kaa xidhan yahay okay codku kaa xidhan yahay inta ka baxdid ku soo noqo inta Dr. Liban u hagaagayo codka waxaan rabaa in aan siiyo sheekh Abdul Hayy oo isaguna jooga maxaa ku yiraahdaa Muqdisho وحما شيخ النلك على المبارك الشيخ عبد الحليم مقشا واكو مقشا في عنبا لو مقلا يا عد ودلوي سو دو شيخ عدك مهمه ان نلك وير يحيى بسم الله الرحمن الرحيم دمان علماء ku jirta khadka waan salaamaya waxaan isugu imaanayna waa tacsida sheekhaas weyn ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto ducadiisa iyo تعسيدا سجد تعسيدا كذب إلهي والقرآن كله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون marka mar hadii la inoo sii sheegay oo arintu ay sidaas ay tahay waa waxaan ogeyn waxa dhacaya ilaahay cimri ayuu siiyay waxaan u rajaynaynaa ilaahay inuu ku daro sheekha kuwa la yiri maanta jannada waxay u sugnaatay qofkii cimrigiisana u dheeraado camalkiisana u wanaagsanaado طبعا دكتورka arintiisa
يعني تعسيدان عاو إن تعسيين أوجي واحد معنا معها جوانبته دروس وين أي كجرت اللغة ده ينكره هذا مركان نحن كفيريو وحي تهاي تسامح يفهم كعميقة ودمان وهاي الحركة الإسلامية وأركايو ضد سوى لما يسترعيا هدي أما كتابة لقى قري أما وحلقة الشيء وسن يعني كل مشغولين إنه كجوابه waxyaabahaasi laga sheegayo maxaa yeelay dadka oo sharafta iyo qiimaha iyo kariimka ah xaqdi iyo uruxmo ma qaadaan marka inta looga faa'iideysto oo yani kala duwanaanshaha aaraada lagu kala duwan yahay inay u tahay ithraa fikirka islaamiga ah iyo camalka uu ku sameynaysa ayna cadaawad iyo ayna keenaynin marka doctorku wuxuu ahaa doctor Ramsi oo tasaamaxaas ana waxaan ku xusuustaa hatta asaga oo يعني dood ka qayb galaya wadanka Suudaan maraan arday ka ahaa oo shir meeshu kaga soo qayb galay asaga iyo Sheikh Abdul Majid Zandani oo Yemen ah ayagoo ka hadlaya yani islaamka iyo maxaasintiisa iyo doodo kuwa aan muslimiin ahayn oo yani ay ka celinayeen shubahaad ay soo aroorinayaan marka yani wuxuu ahaa yani dhinac walba ayuu islaamka ka difaaci jiray jazakallahu khayran majallaadka intaas la eg ay inooga tagayna asagii un baa jasadkiisa inaga tagay afkaartiisii cilmigiisii uu inoo joogaa halka inaan ka sii wadno baana muhiima haddana aan soo tacsiino sheekhan aan u ducayno anaga muqdishaan joognaa waxaan isgaarsiinay berri oo jumcada ah in salaatul janaaza al-ghaib intii masaajida aan gaari karno in lagu sadaqaysto marka intaana muqdisho joogta oo hadda khadkana ku jirto oo Dr. Maxamed iyo Sheekh Bashiir ay kamid yihiin meelaha ay tagi karaan ama ay joogaan inay yani aan ku sadaqaysano kulli aan masjidka aan khudbada ka akhrin doono ilaa yiraahdo waan iclaamiyay inaan yani janaazadan halkaas aan ku oogi doono muxaadaro ku saabsan oo doctorka iyo cilmigiisii iyo wax laga faa'iideysanayna aan halkaas kula wadaagi doono dhalinyarada Soomaaliyeed ku xiran masjidka sheekhan halkaas aan uga ducayn doono innaga inteena meesha ku jirta culimada ahna waan soo tacsiinaynaa sheekhan ilaahay waxaan uga baryaynaa jannatul firdaws al-aala ilaahay inuu ka waraabiyo waana mahadsantiin aad baad u mahadsan tahay Sheekh Cabdulxayi oo Muqdisho ka soo galay sida hadda uu tilmaamay Sheekh Bashiir iyo Sheekh Maxamed Xaaji ay la joogaan Allah barakeeyo dabcan waa midaan halkan aan ka iclaamin lahayn oon dhihi lahayn masaajidda barintooda jumcadaha looga faa'iideysto in loo duceeyo salaatul ghaa'ibna lagu tukado haddii doctor maqlayo doctor Liibaan hadduu maqlayo hadduu codku doctor Liibaan ma maqlaya يا سلام يا سلام ما شاء الله بارك الله فيك أدبر ما سنتها دكتور ليبان أو نين أكاديميك قائد دعوة إسلام كنا وحبذا طبعا كجري دكتور سودو شيخ وين بين بحي محاكو بحي تعسي معاد أمد المسلمين تودر إن شاء الله سودو شيخي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخواني في الله السادة العلماء وحن لا يهي إنتنا دعونا يسابع إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي صبر إيمان الله نقبض السيو شيخ الأمة وضوءها حبر الأمة أيوها كنتي إساقا وحي واجبات والله هوا قلتي سيدة علماء كفر رئيسي الإمامين marka mashaariq al-ard wa magharibiha maanta waxa uu ku leeyahay tullaab wuxuu ku leeyahay fikri asahwa al-islaamiya iyo baraaruganba fadli weyn uu ku leeyahay marka manaaqibtiisa iyo majaalaadkiisa laguma koobi karo si ujaala ah laguma koobi karo laakiin aan waxa isleeyahay 3 daqiiqo 4 daqiiqo aan israahdo waxyaalaha annaga uu looga tagay maxaana laga rabaa sida Sheekh Bashiir iyo Dr. Maxamed iyo kulli culimada ka horeysay ay tilmaameen anaga cibra ayaana laga rabaa ficlan isaga wixii ilaahay uu mataqaana waajibaadka uu saaray yani adda al-amaana sida isleenahay oo aan uga marxaati kacayn maadaama antum shuhadaa Allah fil ard layiri marka annaga marqaati waxaan uga wadanahay dhammaan dadkii iyo wax yani waxay u marqaati kacayaan
dowrka iyo kaalintii uu kaga jiray ummadda iyo dacwada camalkiisana shaahid uu u yahay oo la og yahay inta kutubo oo hadda mawsuucadiisii dhowaan inay soo baxdo 105 مجلدات يعني وحوي انتاس وموسوعة او من المكثرين الا uu noqday oo majaal kasta uu ka qoray marka isaga intaas way ugu filan tahay laakiin waxa weeye turaadka uu ka tagay maxaan kala bixi karnaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa dadkii uu u dejiyay way qubuul oo dadka dhexdooda bini aadanka iyo mu'miniinta iyo muslimiinta ayuu u dhex dejiyay waxaan rabaa runtii sida hadda loogu wada ducaynayo يا سجاشمات في بلو غيرنا لو قد أنجري مركز صحوة الإسلامية مواجهة العلمانية أي أهيد وصحوات يحوق يسوي لنا ين مرشد بؤها ترشيد بتسمينا دعوة أبوها أنا واحد خصوصا كلن في وجوه يلا كل ما واحد أهاي سجاشمية بلو غيري يعني أفري سجاشن في سدح سجاشن في وقتيدا أي أهيد الذاكرة waxa uu nagu soo booqday Maghrib jaamacadda qaacad oo Ibn Khaldun la yiraahdo oo aan fikrati abiha buudsantay markaas oo saxwada oo yani tayaareedkeeda kala duwan al-adab wal-ihsan iyo qoladan yani binkiran iyo ardadoodu ay jaamacadu mar walba ay ku jiraan siraac maca al-almaaniya ay ku jiraan ayuu mawduuci as-sahwa al-islamiyya isay loo ishaadin lahaa ayuu jeedinayay marka qaacadiga dhan way buuxsantay marka qaacadii waxa agtayda aniga aan meel aan fadhiyay dhinaca kale waxa loo baneeyay gabdhihii iyo akhawaadkii oo arkayso markaas xijaabka inuu bilow ahaa xagga Maghrib markaa fiiriso oo wada madax cad oo aad moodo yani dhammaan zay qurux badan markuu qaacada soo galay waan xasuustaa ta'asurka iyo ilma iga timi waxa markuu soo galay يعني waxaan ku ta'asuray gabdhihii akhawaadka halka ku jiray meeshan joogay dhinaceeda joogay ayaa gabdho fara badan duco oo mataqaana oo aan dahri qalbi oo bicumq iyo ilma ay ugu duceynayaan oo ilayhi allahumma ayyidhu bi nasri allahumma qawihi ilaahayo dacwadiisa u garab istaagay ilaahayo umri si ducadaas ayaa iyo amtaasheeda ilaah u aqbalay umrigiisa waa barakeeyay 96 sano iyo wuxuu iyo turaadka uu ka tagay marka haddana ilaa iyo haddana waa loo wadaa camalkaas nin walba oo fikirkaas ku ta'asura ama waxyaalaha mayaadiintiisa walow kitaab waaxida yani uu bedelo uu u duceynaya kulliba waa loo marqaati kacaa hataa waxa way dad ka soo horjeeda fikrigiisa ayaa u marqaati kacaya inuu mayaadiin badan isaga uu ku jiray waxaan leeyahay marka aan rabaa inuu ku soo aruuriyo mayaadiintaas waa la sheegay maydaan siyaasi maydaanka ijtimaaciga tarbawiga يعني ترشيد الصحوة وحفر بدن أيو أها ميادينتا وحقوري أو مروة بابا تراتي وكبور أنا وحن سلايا مركها وحيالها ما أنت أن أبا هنهاي يعني السجا كسح لينو محيط هاي أنا لجربها شيخ خير الله سي وحيالها وكل ذلك وحكمت أها ما أنت مجرو يعني قف صحوة كمت أو أنا كتب كيسة hadba inta uu doonaha ka akhriyay wax fara badan aan ka akhrin laakiin anaga hadda waxaan laga rabaa la joogo aakhir umrihi maadaama ay taxadiyaadka umma islaamiga ay ku soo badatay wuxuu xooga saaray al-amal al-mushtarak yani in aan marka yani dhammaan saxawaadka islaamiga iyo mukhtalaf at-tayaaraat al-islaamiya oo fikriga islaamiga rumaysan in ay amal mushtaraka ay sameeyaan عمل كاس مركا انبثق في الاتحاد العالمي وأوروبا وإفتاقي متقانا يوم الأقليات مصارف الإسلامية وحاصل من وتوجه سارة كل جودبة إنه أبورو التجمعات وعمل مشترك مركا إنه النقطة نهجة لجهر تجايو وكو وحتى لا أستجنا وتوجه سارة وحلي راه ترشيد الصحوة صحودي إبرارجي أدب وبلارا إنه سنتطرف جين أو حيالها ما أنت كشيء إنه إنسان جارنا حوج صاري مرك أنا جنا وحنا لجرب عمل المشترك إن حوجنا ترشيد الصحوة إن الصمية سدح وحوج وساري وحكمت أها القضايا العامة قضايا الأمة إلا كبنية وهل من اللغة وذا جيستو مرك أنا جنا وحنا لجرب بعده أمان إن قضايا الأمة إنسان مرنا aysan noqon wax lagu kala gorgortamo oo la kala iibsado
iyadana waxaa dhinacaas qadaayaadka guud oo imaanaya oo la rabaa inay tahay alqadaayaadka oo markaziga ah oo yani qaطciga ah inaanan marna tasaawum iyo tasaahul aan laga gelin usuusha furuucda waa laisku khilaafi karaa laakiin mar walbaba duwalka iyo almaaniyada iyo keyrkoodba waxay weyrarayaan yani usuushii islaamka iyo thawaabideedii saas darteed kitaabkiisa ugu dambeeyey alqadaaya almasiiriya wuxuu uga qoray ilxaadkii ayaa soo xoogaystay waxyaalo badan baa imaaday waana waxaan naxnu nucaani almaanta waxyaalaha jira marka waxay nooga baahan tahay anagana qadaayaadkaas kubraaga ah inaan anagana aan xoogga aan saarno ugu dambeyn waxaan isleeyahay sheekha waxa ayaalaha laga baran karo ama laga samayn karo waxaa ka mid ah oo anagana qudwo uu noogu noqon karo yani in aan mar walbaba yani tanawuca sida la sheegay iyo inaan aqbalno oo mar walbaba aan isgarabsanno aniga waxay ila tahay arrintaasi waa qadiyo aad iyo aad u weyn waktigii hadda ugu dambeeyey 2013 ilaa hadda cadaadis badan baa sheekha la saaray zuhuur fara badan baa loo diiday wamaca daalika fikrigiisa meel walbaba iyo albaab kastaba wuu galay marka sheekha aan u duceyno waxa uu ku noolaan karaana waxa weye afkaartiisa oo meel walba ay joogto oo aan isku walaalsanno dhammaan atayaaraat alislaamiya annaga aan isku walaalsanno bini aadan waaye wax dhici karta waxyaala inaad ku khilaafsan tahay laakiin inta mayaadiin oo isaga uu hortaagnaa calmaaniya hadday noqoto ilhaad hadday noqoto iyo waxyaalahan maanta alqadaaya dawla iyo keyrkoodaba ayaa aad u badan marka xasanaadkiisa qofka ay ka bataan hafawaadkiisana waxa weeye waa qof saalixa marka annaga waxa weye markhaati kale noogama baahna camalkiisaa markhaati u ah quluubta dadku ilaahay siduu qubuul ugu soo dejiyaa markhaati ah إلهي وحان كبرينا إنه إلهي في جنة الفردوس الأعلى إلهي إنه سيو مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا إلهي وحان كرجينا أنا قال قداشيس إلهي إنه صلى في اثنين آد بان أمها سنتهين جزاكم الله خير إلهي توفيق لنا وروافقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا دكتور ليبان كلمة دعاتك وقيمها بضل آد بعض أمها سنتهي adiga laftigaagu safar baad ku jirtaa inoo soo duceeyo xayaakum ullah waxaan walaalaha ama culimmada waxaan u sheegi lahaa insha allahu tacaala qofkii degdegsan uu ka dhici karaa markuu qofku kelmadiisa uu gudbiyo iyo ducada haddii uu jecel yahayna wuu nala joogi karaayo markaa wakti munaasaba uu haysto allah idin barakeeyo doctor cusmaan oo jabuuti ka soo gelayay baa ka dhacay haddana qolyaheena reer qurbaha waxaan rabaa inay qolyaha afrika ka yara dambeeyaan oo ina sugaan allah barakeeyo inta uu doctor cusmaan ka soo noqonayo waxaan rabaa inaan soo dhoweeyo sheekh maxamed dayib oo magaaladan aan joogay birmingham uk ila jooga allah barakeeyo sheekh maxamed dayib may maqashaa si fiican sheekh axmed baarak allah fiik خير الله كسيو وان رجينيا إناد دقيسانيس علماء إنتي كسو هاللين وان جعلان لها أدونا إناد قيبت هذا كدرسة تصودو شيخي جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ولا الله علماء كجرت برتا أدبار الدين والسلام دمانتين معينا عنون ولا شيء كريم بارك الله فيكم إلى محكبر يينا فقيد كاس إنه حريسته إنه كاقبل جهدي جيسي halka qarni ahaa taqriiban innagana uusan bacdigii ina fidnaynin dariiqii uu ka tagayna ilahay waxaan ka baryaynaa inuu inagu sugo sida isagaba uu u sugay ikhwaani fi lislaam mawaadiicdii muhiimka ahayd idinkaa ka soo hadlay waxaanu jeclahay dhowr nuqto oo ku saabsan shakhsiyadda sheekha oon isleeyahay innagay cibra inoogu jirtaa lafteenna sheekhu hadda isagu wuu gutay wixii ilaah subxaanahu wa tacaala uu waafajiyey oo wax fara badan ahaa waxaana u malayn inaan hadda sheegnaayo way fiican tahay laakiin inaynan kuba koobi karin camal hal qarni ah oo mutawaasil oo isleeyahay saacadaha yara wajiifo mooyeen inuusan noloshiisa inta kale aysan ka baxsanayn
wax daqiiqadaha in meesha fadhina ku koobi karna maaha laakiin uun keliya inaynu isla tiltilmaanno waa wax meesha ku jira waxaan islaahay noloshii sheekha niqtooyin dhowra sheekhu arrimahan uu ilaahay subxana watacaala waafajiyey dabcan asbaab bay leedahay asbaabtaasi qaarna waa shaksi oo waa khilqa abuur ilaahay uu ku abuuray qaarna waa tadayun iyo fikr khaariji oo dibadda uga yimid ilaa diinka laftiisu waa ta'athur kolkii fitrada laga reebo sheekhu shakhsiyadiisu wuxuu ahaa shakhsiya mawhuuba yani laga bilaabo maalintii uu 9 jiray ilaa hadda oo 96 uu jiray inta camal caam abu ku dhex jiray waxaan fiirsaday isagoo leh imaamada waxaa bilaabay inaan imaam noqdo waana imaamku waa camal caam ah isagoo 9 jir ah khitaabadana wuxuu bilaabay isagoo 12 jir ah taa macnaheedu waxaa weeye wuxuu ahaa mawhuub oo weliba mawhuub khayaali oon dabiici ahayn kolka la fiiriyo dib loo aqriyo sidoo kale wuxuu lahaa oo iyaduna khilqa ahayd abuur ahayd caziima go'aan adayg qof go'aan adag oo meesha uu doonayo ilaa uu sida saaruukhii uga dhex baxo aan ka soo noqonaynin yuu ahaa taasna tusaale waxaba u ah hadda oo uu da'daa jiray maalin dhexdeeda waxaan fiirsanayay isaga oo laleeyahay imise saacadood baad dawaamtaa oo leeyahay 10kan soo gala 12kana waan ka baxaa waa 14 saacadood caziima aan dabiici ahayn go'aan adayg waana mawsuucadan 5% markuu hadda inuu dhammaystiro u go'aansanayo waa khilqa taasi abuur wey oo caziima adayg inkasta oo ay qayb ku leedahay tarbiyada iyo wuxuu lahaa himma caaliya macnaa sifaadka waxaan u sheegayaa dhammaan wixii inaan inaguna kasbanno waxaa la yidhaahaa sifo kaste oo qof aad ku aragto haddii ilaahay kugu abuuray waa khayr haddii kalena waad kasban kartaa haddaadan kulligeed kasbanin marka duruusta aynu ka qaadan karnay ka mid tahay wuxuu lahaa himma caaliya ilaa markii uu yaraa weligii ma uusan ku fakerin inuu noqdo haddii meel la joogo ka u sarreeya mooyeen dhinac kaste wax khilqadiisa ka mid ah himma caaliya waxaa ka mid ahaa oo isaguna dabiici ku ahayd ashujaaca والصراحة geesinimo waxa qalbigiisa ku jira in uu yiraaho ay sahal u tahay dadka oo dhan haday geeska yihiin iyo keligii inuu yiraaho kelimada mudaahana wax la yiraaho taariikhdiisa lagama soo warinin shujaacan dabiici ahayn ya صراحة iyo الثبات في الموقف hadba waxa uu isagu aaminsan yahay inuu ku dhago taasna kulligay waad aan malaynaa inaad wada akhridan oo aad ugu taariikhda markii dib loogu fiiriyo caziimadiisa sida ay u adkay camalkiisii haddaan wax yar ka soo qaadano aan innagana ay inoo tahay inaynu duruus haddii culimadii la yahay iyo dacwada wuxuu lahaa xis caalami dareenkiisu ma ahayn dareen shakhsi dareen mandiqadna ma ahayn dareen jihawiyana ma ahayn wuxuu ahaa xis caalami sida qur'aankuba uu caalami u yahay islaamkuna uu caalami u yahay warathata al-anbiya oo culimada ana waa mawduuca looga baahan yahay inay ku tilmaanaan xis caalami u lahaa wuxuu ahaa daa'iman shakhsi mulim biqadaaya umma meel kastoo adduunka ka jirta waxa ka jira yani haddii uusan si juz'iyaada ula soconin si guud fikra caamo aad u wanaagsan waxaa arrintaa ka akhrisan kartaa kitaabkiisa alaqliyaat alislaamiya oo kaga hadlayo meelaha qaarkood sida uu uga hadlaya aad moodaysa inuu ku nool yahay wuxuu lahaa marka dareen caalami iyo danqasho caalami iyo humuum caam ah oo tii nabigu xambaarsanaa oo kale ah oo de nabigi markaynu dhaxallay calayhi salaatu wasalaam haddii culimada la yahay waxaynu ka dhaxallay dacwadiisii oo mutakaamila ah marka dacwadiisu rasuulkeeda humuumta in la xambaaro insaaniyadoo dhan humuumteeda in la xambaaro sifaadka cajiibka uu lahaa imaamku waxaa ka mid ah alijaabiya watafaa'ul shakhsi wuxuu ahaa hortiisa nuur baa ka muuqday qof salbi ah muusan ahayn
hadalkiisa oo dhan marka aad dhegaysato ama aad aqrido ama aad la kulanto yani markii ugu horreysay la kulmay 94 baan ahayd mar kaste wuxuu xambaarsan yahay humuum laakiin maca dalika mutafaa'il hortiisa wanaag baa ka muuqda inuu khayr soo socdo inay dacwa islaamiya najaxayso in islaamku uu najaxayo in islaamku wax hor istaagi kara uusan jirin yani hortiisa waxaa ka muuqday nuurkaas oo ah iyadana ta keenaysa daaqada awoodda leh inuu sidaas halka qarni uu sidaa u wado oo uusan ka daalin sifaadkiisa waxaa ka mid ahaa sheekha ikhlaas camalka uu qabanayo ikhlaaskiisa waxaa aad ii cajab geliyey risaaladan ibnu alqarya walkataatiib taariikhdiisa iska qor markii la yidhi baa wuxuu ku bilaabay wax badan baan ka warwareegayey inaan isqoro maxaa yeele kelimada ana baa soo gelaysa anadana ikhlaaskii bay fogeynaysaa marka muddaan ka warwareegaya buu yidhi inaan isqoro aan idhaho laakiin daqdi igu yimid darteed intaana waxaad garanaysaa ikhlaaska uu xambaarsanaa oo aan isleenahay waa midda ilaah subxaanahu watacaala qalbigiisa uu ka akhristay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku caawiyey dabiici ma aha arrinta sheekha hadda marka loo fiiriyo qof ma aha sheekh yuusuf alqardaawi waa madrasa waa madhab xay waan is odhan karan madaahibta hadda jirta oo madaahibta oo laga madhab dhigto kolkii ay noolaayeen ma aysan ka tegin inta in la eg haddii dib loogu noqdo imaam fulaan aimada waaweyn inta uu ka tegay hadda in la eg ma aysan ka tegin juhdiga intaa dhan weliba aan isleeyahay sida islaamku uu shaamil u yahay yaa kitaabaadkiisa iyo mawaadicdiisuna ay shaamil u tahay sidaa darteed wuxuu noqon karaa madrasa mutakaamil oo muslimiinta oo dhan xataa walow shiica ixtiwaa ku samaynaysa oo qof waliba uu iska arkayo inuu yahay sheekhu walaalkii muslima oo khayr la doonayo waana tadaacida laga rabo udcu ilaa sabiili rabbika bilxikma waalmawcidati alxasana kolka la fasirayo aayadda bilxikma xikmadu waa naska kitaabka iyo sunnada mawcida alxasana waxaa la yidhaah qofka aad wax u sheegaysaa inuu dareemo inaad daacad u tahay khayr la doonayso sheekh yuusuf alqardaawi kitaabadiisa ninka akhriya wuxuu dareemayaa in uu yahay qof isaga la hadlaya oo khayr la doonaya sida uu u danqanayo oo muslimiintu siday isugu iman lahaayeen khilaafaadka dhexdooda yaala si ay isaga saari lahaayeen si ay isugu sabri lahaayeen si ay isu saamixi lahaayeen sida inta ay isku waafaqsan yihiin u horumarin lahaayeen inta isku khilaafsan yihiinna ay isugu cudurdaari lahaayeen qof walba oo qalbi furan ku aqriya wuxuu dareemayaa walaalkii oo u daacada inuu yahay ikhlaaskaasu wuxuu ka muuqdaa kitaabadiisa wuxuu ka muuqdaa kelimaadkiisa wuxuu ka muuqdaa raadka ay kelimaadkiisu leeyihiin waxaa kale oo sheekh sifaadkiisa ka mid ah atawaadu nin iskibriya maahay dad fara badan oo culimo baa jira sida boqorrada markaa u timaado aad bawaabin u baahan tahay oo yani isagu waad yani intiina badan waad la kulanteen marka aad la kulanto shakhsi adiga kula eg oo kula da'a oo kale yaad dareemaysaa siduu kaagala sheekaysan yani meeshaad ka timid markaaba ku bilaabayo si isagoo oo yani awal kula noolaa jiray mehebla ka warran yani shakhsi mutawaadica oo sida waxaan isleeyahay marka qofka daaciga ah waxay u baahan tahay duruus inay uu ka dhigto siiradiisa shakhsiyada ah ama midda dacwiyada ah ama midda kitaabada ah ama midda caamka oo bulshada ula dhaqmayey yani waxaan isleeyahay waa madrasa aan isleenahay wuxuu tajsiidinaya ambiyada dhaxalkeedii oo ahaa ambiyada ay culimadu dhaxleen oo mujasado ahoo xaya ah oo horteenna ka nool yuu ahaa baan odhan karnaa saas darteed ilah waxaan ka baryaynaa inuu ka aqbalo innagana waxaan ilaah ka baryaynaa subxaanahu watacaala in aynan khidlaaninin oo madrasadiisii iyo manhajkii inoo jeexay iyo dariiqa aadka u qiimo badan ee isaga oo aan isleeyahay keligiibuu ku ahaa wax walba oo soo gaadhay iyo intii fallaadh ku dhacaysay yacni waxaa kugu filan in uusan weligii qorin hal kitaab oo jawaaba intaa wax qoraya waxaa laga qoray inta yani ijaabiga ahaan looga qoray mehe
inta laga qoray oo salbi ah oo isaga wax laga sheegay waxa la ii sheegay qof aan ku kalsoonahay 50 kitaab inay marayaan inta isaga qaar waxa cinwaan looga dhigay yani kelimada subhanallah al-kalb yani oo magac loo maca dalika weligii muuse ka jawaab taas marka waxay na baraysaa inaguna si aan ummadda muslimiinta aynu ugu sabirno tasaamuxa iska aqbalida iska dhaafida qofka walaalka ah arrimaha duruus noloshiisii yay inoo tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto allahna ha ka aqbalo innagana bacdigan allah inama fidneeyo وبارك الله فيكم بعد الله إنما في النيو وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا جزاك الله خيرا يا آد بدو ما هاي شيخ محمد طيب إمامية مقالة برمنغهام آد بان كاغا مهد علينا كلمة قيمها بدل شخصية الشيخي إمامك يوسف قرضاوي أتكتل مانتي الله بميزانك حسناتك كو صاروا شيخنا الله ونحريش وحان umahadinaya walaalaha inala socday intaas hawada inagala socda jazaahum allahu khayran idinkana u soo duceeya imaamka adduunyada ka guuray waxaan tacsi wadareed iyo duco aan u samaynaynaa culimmadeenna soomaaliyeedna ay ka hadlayeen shakhsiyaddii iyo juhdigii iyo shaqadii iyo camalkii uu samaynayey doctorkii yuusuf alqardaawi raxmatullahi caleyh waxaa ay u suura geli weyday doctor cusmaan mufti baled jabuuti saabiq muftigii dalka jabuuti ee hore in netka uu ka soo galo marka waxaan rajaynayaa codka ayaan idiin daari doonaa wuxuu igula jiraa whatsappka doctore may maqashaa asalaamu calaykum عليكم السلام سيفي عم أكون بغلا ولا لكم جزاك الله خيرا دكتور ما دام مجالك وأذينا وياهي فتوى دكتور يوسف القرضاوي هو بحر فتوى سودو ماشي إلى هي كاجرسيو هذا كدرسو سودو شيخي جزاك الله خير جزاك الله خير يا أحمد دمان علماء يو dadka barnaamijka la socdo waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam warahmatullahi kule hawshaan caawa ugu fadhino aan ka hadlayno waa tacsi iyo geeri waxaan ka baryaynaa imaamka weynaa waalidka inoogu toosnaa ilaahay inuu naxariistaan uga baryaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu geliyo jannadii alfirdows alaclaa oo nabigii sala allahu calayhi wasalam iyo shuhadada iyo saalixiinta ilaahay inuu la soo xashayaan uga baryaynaa aamiin ya rab annagana ilaahay inooga daba naxariisto dariiqaasuu maray un baan maraynaa marka ilaahay annagana khaatimada inoo hagaajiyo ayna sugo culamada barnaamijka ka qaybgalaysana foliya maqaamkiisa ayaan ku salaamayaa labadiina sheekh ee barnaamijka daadihinayana si gaaraan nii salaamayaa intaa marka laga yimaado runtii waa geeri weyn oo aad u naqdin badan waxaan weynay waa imaam yaa waxa weeyaan naga baxay oo adduunkana ka baxay aniga shakhsiyan alimaam yuusuf alqaradaawi hal mar baan la kulmay magaalada maka almukarama kula kulmay 2009 waxaan kala qayb galay shir weynaa oo caalami ah oo fatwada lagaga hadlayay waxbaan ka bartay oo aan ka dhegaystay oo aan ka qaatay ilaahay u naxariisto waxaan aad uga fikiraynay inaan bariga afrika soo siyaarsiino markuu i arkay wuxuu ii muuday inaan ahay koomor ama juzurulqamar inaan ka soo jeedo wuxuu ahaa imaam aad madaxiisu u soo jeedo wuxuu igu yidhi madaxweynihiinu shiicada muxuu ku falaa buu igu yidhi markii u horreysay aan salaamay asaan ku yidhi juzurulqamar ma yihi jabuuti baan ahay jabuuti waan soo ziyaaran buu igu yidhi waagaas haddee jilbaha ayaan ka cabanaya aan ka roonaado iyadoo inan dhicin ayuu geeriyooday ilaah u naxariisto aamiin ya daa wanaagsan iyo hamiga ummaddu islina ilaahay ka abaal siiyo sheekh yuusuf alqaradaawi waa sidaad sheegtay waa bad aanan xeeb lahayn oo aad u ballaadhan shakhsiyaddiisa waxaa la odhan karaa 3 arrimood baa miftaax u ahayd ama furo u ahayd shumuuliyat lislaam iyo alumma iyo ashariica 3daa kelmadood baa la odhan karaa shakhsiyaddiisa miftaax bay u ahayd aad buu wax uga qoray aad buu caddeeyey
marka laga yimaado maxamed rashiid rida iyo xasan ilbanna iyo maxamed cabdo iyo marka laga yimaado aad buu saddexdaa mustalax u balbalaariyey islaamka inuu shaamil yahay majaalaad fara badan buu wax ka qoray waxaan marar badan anoo si gaara u xasuustaa sittiinaadkii sabciinaadkii markii masaarifta islaamiga iyo tamwiil islaamiga markii baabkiisan cusub markii loo dejinayey laga shaqaynayey wuxuu kutubtiisa ku qoray inay daruuri tahay in la jebiyo qaacido dhaqaale oo ay nimankaa reer galbeedku dejisteen oo odhanaysay iqtisaada biduuni bunuuk walaa bunuuka biduuni riba adduunkan dhaqaale ma jiro bilaa bangiyo bangiyana ma jiraan bilaa ribo iyo bilaa maxaa la dhahay antiire iyo faa'iido faa'iido culus bay ahayd oo qofka muslimka caqaba ku aday ahayd wuxuu ka mid ahaa dadkii u guntaday aad ugu dadaalay in la jebiyo oo la helo bangiyo aanan ribo lahayn marka shumuuliyadda islaamku aad wax uga qoray al-umma ayuu aad uga shaqeeyey sheekh al-umma buu ahaa taasuu ka horreysiiyey uu ka doorbiday inuu sheekh xarako ama tayaar mucayana inuu sheekh u noqdo intaa jeer baa loo soo bandhigay ururka weyn ee al-ikhwaan almuslimiin leedahay inuu murshid ka noqdo uu ka cudur daartay wuxuu yidhi murshid aljamaaca inta noqon lahaa murshid al-umma ayaa noqon buu yidhi miftaxa saddexaadina waa shareecada oo majaalaadkeyga uu aad uga qoray iyo furuucda fiqiga iyo maqaasida uu aad uga qoray sheekh yuusuf alqaradaawi xagga fatwada iyo ijtihaadkiisu wuxuu ku suntanaa oo maclam u ahaa waxaa la yidhaha alijtihaad almaqaasidi gaar ahaan 3 maslak ama 3 dariiq ama 3 calaamadood oo ijtihaadka maqaasidigu uu leeyahay ayuu aad ugu suntanaa ugu calaamadaysanaa waa alumuuru bimaqaasidiha arrimaha in ujeeddada laga raaco iyo ictibaari alma'aalaat in la eego wakhtiga soo socda iyo mustaqbalka in lagu xisaabtamo marka fatwo la bixinayo iyo aljamcu bayna alkuliyaat alcaama waaladilla alkhaasa kuliyaadka guud ee diinta iyo adilada gaarkaana in la jamciyo oo laga ilaaliyo in ay isku hor yimaadiin sheekh yuusuf qaradawi waxaanu kusoo khatimi lahaa ilaah u naxariistee culumadeenna soomaaliga ee afkan hadda aan ku hadlayna ku hadla iyo ummadda soomaaliyeed bariga afrika joogtaba dhaxalkiisii waxaan aad ugu baahannahay inaan uga faa'iidayno in ummadda aan ka xorayno siduu isagba u sacyinayey waxaa la yidhaha aljabriya ummadda in la qasbo inaan ka xorayno ayaa dhaxalkiisa ugu weyn waan isleeyahay culimo ahaan ummaddayna waa inaan uga faa'iidayno alimaam alqaradaawi wuxuu aad ugu dadaalay inuu dadka ka xoreeyo aljabriya addiiniya waljabriya asiyaasiya in dadka qasab diiniya la geliyo iyo in qasab siyaasiya la geliyo ayuu aad uga halgamay run ahaantiina hadhaadh badan iyo dhib badan baa u gaadhay hadda markuu geeriyoonayo siyaasiya la geliyo mu'asasadii azhar oo uu inankeygii yahay oo uu caalimkeygii yahay waxay ku dhiirani kari weyday marka laga reebo doctor xasan ashaafici jazahu allahu khayran waxay ku dhiiran weyday inay tacsiyeysay ku dhiiran weyday sheekh alazhar wuu aamusay aamuska qabuurtuu aamusay isagoo 7 ka hor ama muddo yar ka horna tacsiyadaynayey boqoraddii ingiriiska oo astaan u ahayd maxaa la dhahaye dhib badan oo adduunka saddexaad iyo caalamka islaamka soo gaadhay marka annakana bariga afrika labadaa jibriiba wayna haystaan in qofka biniaadankaa laga yidhaaho iraado ma lihid ikhtiyaar ma lihid waxaa tahay warqad taalla meesha ay ka dhacayso dabaysha qadarku qadar unbaa ku riixaya adigu iraado ma lihid oo ikhtiyaar ma lihid in la yidhaaho oo waxa weeyaan laga dhaadhiciyo qofka in samadu ay dahab iyo lacag soo da'ayso oo iska fadhiyo sababo oo dhan ka tago ha noqoto sababtii maxaa la dhaayay jamiic alasbaab oo dhan inuu qofku ka tago iyo jibriyada siyaasiga ee waxa weeyaan ummadahaasi
afkan aan ku hadalnaa ay afduuban yihiin ama almaal siyaasi alfaasida u afduubnaadaan ama istibdaad u afduubnaadaane isu qardaawi dhaxalkiisa waxaa looga helaya duwo badan iyo jabriyo annaka noo gaaro oo aljabriya alqabaliya oo reer iyo reer hebel aan ku xurubi laanahay iyo jabriyatulqaat in balwad addoon loo ahaado oo jaada ummaddeennii uu la hadhay meel walay joogto jabriyaadka ayna haysta ee qasabyada ayna haysta turaadka yuusuf alqaradaawi raximahullah waa inaan haddaan culumo nahay iyo labeentii bulshada haddaan nahay waa inaan dawo uga helno ilaahay u naxariisto sana ayuu ku dhowaaday wuxuu jebiyey xikmad ku jirtay ama maahmaan ku jirtay gabaygii zuhayr binu abi sulma uu yidhi saimtu falxayaati waman yacish 80 xawla laa abaa laka yas'ami buu ninkaas yidhi waxaan ka daalay buu yidhi nolosha culayskeyga 80 qofka gaadhina wuu caajisaa buu yidhi yuusuf qaradaawi raximahullah wuu jebiyey arrintaasoo 90 iyo ziyaado ayuu biiroogiisa dhowr iyo 10 saac shaqaynayay ummaddani waxa weeyaan dhaxal uga tegey marka waqtigiisa midhidh iyo ilbiriqsi uga faa'iidaystay ilaahi subxaana watacaala khatimadee noo hagaajiyo allah inoo sugo kudaysho wanaagsan buu ka tegey ilaahi u naxariisto qabrigana allah u waasiciyo aad ba u mahadsantihiin sheekh axmed jawhar iyo maxamed sheekh aadan oo barnaamijka saaad u maamulaysiin iyo taad u wadiin allah ni barakay dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورة آد بعض ما تصنتهاي كلمات كقيمة بدن لآد نلو ذاكتي ميزانك حسنات كثيرة الله كوسارو وانكحون هاي جبرية قيب كتهاي إيران مقال كاغي أركوين هذا مركا انت وحدا في ماي اللبيب يفهم بلده جري موقته marka ishaarada kulli waa la fahmi doonaa khayr allah ku siiyo aad baan kaaga mahadinayaa sabirka iyo adkaysiga iyo waqtiga aad nala joogtay intaas jazakallahu khayr doctore axbaabtii iyo walaalahana nagu salaan dhammaan meel kastood joogtid fi amaanillah وعليكم السلام ورحمة الله waxaan soo gaadhay oo asaguna khayr allah siiyo camal dacwo ku mashquulsanaa doctor cabdilbaasid oo reer manchester ah جزاه الله خيرا وحرجيني طبعا وتعسيي دكتور ما يمغشا نعم سودو دكتور خير الله كسيو علماء الصوماليات سبك ورقبتو عاوة وحن وتعسييني دكتور كيوينا إلهي أوفصدي الله نحريستو haddii u baahan tahay waqti yar waan ku siin karaa haddii kale waad gali kartaa insha allah daqiiqadahaaga adigana wixii ilaahay ku dareensiiyey ku fahansiiyey inaad nala wadaagto soo dhowo dictore waa dhowahay bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalama calaa sayidina muxamedin waaalihi wasaxbi ajmaciin ragga barnaamijkan soo abaabulay axmed jawhar iyo sheekh maxamed aadan sheekh cabdiraxmaan bashiir qaadi maxaan lahay maxamed cumar labadii wadaad ee ka horeysay sheekh bashiir baan u jeeday iyo wadaadka reer jabuuti dhammaantiin waa salaamantihiin ilaahay subxaana watacaala khayr ha wasiiyo dhammaanteen meesha dee meel rag culimo odayaal iyo dad iga waaweyn baa jooga inaan ku hadlo doctor maxamed xaaji iyo liibaan oonan is aqoonin laakiin maxamed xaaji uun isagana waxaan kala iska lacnaa maxaan lahaa webka ama internetka rag oo dhan waa salaaman yihiin wax badanoo hadda ii haray oo aan sheego ma jiro sheekh yuusuf alqardaawi raxmatullaahi calayhi de waa ninka ummadoo dhan ay taqaano aan rajaynayo inuu ilaahay subxaana watacaala qubuul uu dhulka u dhigay inuu samadana ilaahay subxaana watacaala uu dhigo uu addoomankiisa abraarka saalixiinta darajadooda ilaahay uu geeyo wanaagga iyo khayrka uu qabtayna waxaan danaynayaa inuu ilaahay subxana watacaala fi miisaani xasanaati uu ku daro ummaddana ilaahay subxaana watacaala bedel khayr qaba inuu ilaahay subxana watacaala ugu bedelo hadihi sunnatullahi caza wajalla oo qof adduunkan joogaayo ma jiro laakiin dadku markay
dhintaan dadna waxaan irti iyo wanaag iyo khayr iyo bay ka tagaan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay idaa maata ibnu aadam inqada camalu ilaa min halaatin camalin saalixin ama se maxaa lalahaa iyo waladin saalixin wa cilmin yuntafacu bihi ama sadaqa jaariya uu ka tagay waxaad moodaa shiikhu ilaahay subxaanahu watacaala inuu intaasan un u yeelay marka ilaahay waxaan warsanayaa inuu maxaa lalahay darajada filmahdiyiin oo ilaahay u weyneeyo waxaan isleeyahay de wax badan oo laga hadlaaba iska yar shiikhuna de raggii ka horeeyey culimada ahaa iyo kuwa ka dambayn doona unbuu la mid yahay oo ninka caalimka ah inta uu nool yahayna wixii awooddiisa uu leeyahay inuu guto de wixii awood uusan u lahayna rabbi subxana wataala kuma uusan kalifin dikrigiisa iyo wanaaggiisana de sidii culimadii hore ay u joogeen cilmigoodii iyo maxaa dikrigooda u joogo baan ilaahay daraynaynaa inuu isagana uu ku daro marka waxaan is oran lahaa waxaan xasuustaa waagii ma garan karo doctor axmed xaaji abdiraxmaan la dilay miya iyo cabdiqaadir ama sheekh cabdilqaadir gacmey baan tii cabdiraxmaan waxaan filayaa waxay doctor axmed baan maqaal ku qoray meel of soomaaliya halgan la yidhaahdo waxaan ku iri sideen maxaa lalahay dhibaatadan dhacday aan ugu bedelnaa quwa iyo maxaa lalahaayey maxaa wax ummadda kulmiya oo aan markaa uga jeeday dee qofku waa tegayaa alawdaanu baaqiya wannaasu baaquun maxaan hadday qaar baxaan qaar baa haraya ummadaha caqliga lena inta badan hadday musiibo ay timaado daruus bay ka qaadataa raggii naga horeeyey culimada islaamka ahay dadka dhan waxaa la dhibo markuu dhinto dee waxbaa maxaa lalahay laga qaadan jiray oo dadku ay isugu imaan jireen markay caadifadu ay saraysana wax badan baa dadku ay qabsan karaan oo isuga imaan karaan laakiin haddii ay keliya noqoto maxaa lalahay hadal oo maxaa lalahay ma'aatir sheekh ama laga sheekeeyo oo wax ka soo baxa ayan jirin waxaan filayaa wax weyn oo ka imaan kara ma jiraan sheekhuna waa sheekh caalima ummadda lagu daydo dadku ay ku daydaan buu ka mid ahaa islaamkana ilaahay subxaanahu watacaala uuna amray inay dadka saalixiinta iyo khiyaarta lagu daydo laakiin haddii uu dhintay macnaheedu maaha inay wax walba ay dhamaatay adduunyadu dhamaatay maaha adduunya tamshi way socon doontaa laakiin waxaa loo baahan yahay jiil xambaaran risaaladii uu maxaa lalahay uu sheekhu u xambaarsanaa oo ka dhabeeya laakiin ayaan iska noqonin keliya hadallo fara badan oo lagu soo celceliyo oo layidhahdo saan buu ahaan jiray saan buu ahaan jiray saan buu ahaan jiray keliya wax badan oo ay soo kordhinayso badan waxaan isleeyahay inta badan islaamiyiintu guud ahaan dhammaantood yujiiduuna alkalaam hadalka aad baan ugu fiicannahay oo inaan wax qurxinno oo hadal qurux badan lagu hadlo laakiin camalku aad buu noogu yaryahay marka haddii camalkeen uu badnaan lahaa waxaan filayaa wax badan baa noo hagaagi lahaa mar baan waxaan soo dhigay maqaal uu qoray sheekh cali dandaawi raxmatullaahi calayh oo uu kaga sheekaynayo sheekh xasan albanna uu leeyahay waxaan ku siyaartay buu yidhi isbitaal asagoo xanuunsan baan isugu tegey wuxuu yidhi shiikhu wuxuu awooday buu yidhi isbitaallada magaca taallay maxalla masar kan ugu quruxda badan leh uu isku daweeyo wuxuu yidhi darinta iyo salliga iyo maxaa lahaa meesha uu ku jiifay buu yidhi sariir tacbaana iyo makhadda maxaa lahaa barkin tacbaan baa u taallay buu yidhi kaana mastadiico maxaa lahaa an uu ku seexdo maxaa lahaa intaa ka qurux badan laakinahu lam yuwadif dacwatahu limasaalihi alkhaasa kelimadaa markaan aan soo dhigay oo aan dad badan ba xoogaa xanaajiyey oo oranaya waxbaa maya ulama jeedo waxaan ula jeedaa keliya in dadka culimada ahaa ee akhyaartaha ee wanaagga ka tegey hadalkiiya lagu soo koobine wixii ay ahaayeen wanaaggii ay ahaayeen in ka mid a cala alaqal 1% 5% dadku ay ku dhaqmaan oo ay la yimaadaan sheekh raxmatullaahi calayhi maanta waxaan facekayga ku qoray inkastoo dad badan ayaan akhrinin waxa la yidhaahdo altakfiiru siyaasi jamaacaadka iyo xarakaadka iyo dawaa'ifka iyo ways inta badan ways gaalnimadu waxbaa la isku tuuraa laakiin caalam alislaami dee waqti hore ay soo bilaabatay in qofku maxaa marka qaarkood siyaas ahaan loo gaalaysiiyo la yidhaahdo iyadoo lagu raaligelinayo ama xukaam ama wax lamida lagu raaligelinayo marka anigu waxaan qabaa sheekh raxmatullaahi calayh nin caalim buu ahaa nin mujtahid buu ahaa laysa min xaqi lmujtahid aw laysa min waajib lmujtahid an yusiiba kulla shay wax walba inuu asiibo ku ibni aadan waaye huwa waxa gafay dad ama khaldamay dad baas ka qiimo badan asaguna waa wadadaas uu maray maana laba ajir buu leeyahay hadduu asiibo haddii uu asiibo waa ajir buu leeyahay غير مأزور way
marka waxaan isleeyahay in aan dhaxalkaa quruxda badan aanan warkii lagu soo gaabeenna sax ay noqdo camal weliba jamaacatu ikhwaan muslimiin sheekh raxmatullahi caleyh inkastoo hode uu cudwi uu ka ahaa haddana wuxuu ahaa nin ka caqli badan oo ka ufuqsaneeyo oo aan ogolayn waxaan dhegeysanayay habeen dhaweyd sheekh casaam alcabashiir nin aad u qiimo badan هو قالوا أن الشيخ كان من الجماعة لكنه لم يكن محل الله متقوقعا على جماعته وعلى محل الله حزبه معنى إنه قف عليهم كأنه لو مضى يوفر حركات إسلامية وصومالية إنه تقوقع يكون احتلال كسر برنامج كوسناهين إلى كبحانه وواحد قرح بدل تلبعض عن قصة لما يستري واحد تاي صح ونوجه هاي ميلا بدل الإسلام في العالم كم إذا إن اللغة تعسيني لكن ظروف ما هيشتها إن ما كان له عذر داره وأنا مركان دولتي كعام كجوتي أو ثورة هاي ودكتاتور كهاي تعلم بس كذا في عملية بي شيء ولا ما يصير مركان دي لأنك الصومالي قال محل وهذا ويصير دنيك علمك عالم هذا لو شيء بهرطال عزيمة يخلص ينو خلقاته أنت عزيمة قاتل مركان طارق الإسلام كعاد فيلسو أدي يجرين وأفضل واحد توقف لما يوم أنت بدل رخصة قاتل ومعنا إلى محل الله نظام كجوجا يعني محل الله دي وصلوا قيسين marka waxaan qabaa hal loo cudur daaro mu'assasaadka caalamiga oo adduunka jira culimada caalamka oo adduunka jirta duruufta ay u diiday inay maxaa lahaay ay wax ka yiraahdaan sababtoo xugun ay tabar u ahayn baa dul saaran marka waa wax in loo cudur daaro aan qabo inay waajib ay tahay marka sheekh Allah uu naxariisto dambiisa Allah dhaafo mee wuxuu ka tagay Ilaahay subhanahu wa barakeeyo marka hadii aan hadalkayga xogaa aan laga yaabo in dadka qaarkood uusan qurux gelinin waan ka cudur daaranayaa تكلمته برنامج كمان إيش كسر عضاء وحن قبائل إنه صن سيد الله بحر أو صن ودعن أولا مركو ورا السوقي ده أدي بنا قطي ومن السوقي كانوا ساعات بين سوقي طلبات من يوروب جوجو حتى بحال الله تلفون كجو يا مساء هو حد اللي بقى طبعا سيستم كو قاعد بيقول لي تي مركو هذا الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا وبيسيس كو خيري أي دتكو أي أركان لكن وحي كو ريا فرقه بدل ما ضوابانين مركو حن جعلها لها مركي إن برنامج كانوا كلتا إن وين ومعروف اللي وحره ayaa aad u qiimo badan yaa lagu xirin weelka tacbaanka oo maxaa la cid daawanaysa ay jiraan taasuna waa mulaaxado aan rabo inaan ragga gaarsiiyo jazakumullahu khayr assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad baad mahadsan tahay Dr. Cabdulbaasid oo asaguna culimada reer UK wixii aad tiri aad ilaahay subxaanahu wa tacaala ka yeelsiiyey inaad tidhaahdana ilaahay miisaanka xasanaadka wanaagiisa ha kuu saaro sidii walaalihii culimmadii kaa horreysay sidaas oo kale aad baan ugu faraxsanahay inay culimmadu ka soo qayb galaan caawa barnaamij caynkan oo kale ana runtii barnaamij sahlan ma aha waa barnaamij ay hay-ado waaweyn inay ka shaqeeyaan loo baahayay marka mulaaxadada dictoorka waxaan u qaadanaynaa dhiirigelin insha allahu tacaala aad buu mahadsan yahay waxaan ku soo wareejinayaa sheekh maxamed sheekh aadan oo isagu ila hogaaminayay isaga laftigiisu in uu ka geysto kelmadiisii sheekh maxamed may maqashaa codka uu kaa xidhay aan u malayn waxaan rabaa horta inaan idinka cudur daaro culimmada qaarkooda soo cudur daarata ayaa jira si fiican baan kuu maqlaa jazaak allah khayr sheekh maxamed culimmada qaarkooda soo cudur daartay baa jira oo maaragtay shaqo yeeshay maxaa yeelay mararka qaarkood waxaa isku dhacay waktigan barnaamijka galaynay iyo waktigay shaqada galayeen marka way soo cudur daarteen allah barakeeyo aad bay u mahadsan yihiin sheekh maxamed kelmadaadii iyo xidhiidhintii intaba soo dhowow جزاك الله خير أخي الكريم الشيخ أحمد نسأل الله أن يجعل في ميزان حسناتك runtii barnaamijkan aad soo abaabushay aadka u qurux badan waxaan jeclahay inaan maaragtay salaamo sheekh cabdiraxmaan bashiirna waan mufakarkiina waa joogaa sheekh cabdiraxmaan bashiir ilaahay khayr ha siiyo si fiican waan soo dhaweynayaa waan salaamayaa doctor cabdibaasit waan salaamayaa sheekhayaga iyo saaxiibkayo labadaas ayaa hadda mataqaanaa ku soo biiray intayna hore waan wada joognay kolley runtii waxyaalaha oo ani aan waxaan ku darsanaya ma jiro oo aan ahayn uun in mataqaanaa sheekha aan u ducayno sheekhuna runtii markaad fiiriso taariikhdiisa wuxuu dhashay bishii September yani 1926 September awalkeedii meelahaas wuxuuna dhintay bishii September aakhirkeeda 2022 marka waqti aad u weyn weeye marka 60kii markay ahayd oo raggan meesha fadhiya badankooda aysan dhalanin
ayuu mataqaanaa wuxuu qoray kitaabkiisa alxalaal walxaraam oo kitaabka ilaa 40 jeer baa la daabacay baa la yidhahdaa luqooyin badan waa lagu turjumay waana kitaab aad u qiimo badan oo ilaa hadda maaragtay aad looga faa'iidaysto iska daa wixii kale 170 kutub ka badan buu qoray marka ilaahay sheekha u naxariisto aanu markaan joogay masar ardaygaan ahaa waxaan nasiib u yeeshay inaan muxaadaraad uu qabtay isaga iyo waagaa waxaa sheekhul azhar ahaa jaad alxaq cali jaad alxaq marka saaxiibbay ahaayeen marka waxay qaban jireen muxaadaraad doctor yuusuf qardaawi iyo doctor maxamed camaara iyo mataqaanaa culamo ay ka mid yihiin saliim mataqaanaa cawa iyo raggaas marka muxaadaraad ayay qaban jireen waqtiga oo samarka ah kadibna maaragtay qadar intuu joogayna hal mar baan maaragtay xafiiskiisa kula kulmay oo barnaamij oo ardada maaragtay talaamidatu sheekh barnaamij ay lahaayeen baan kala qayb galay marka de kolley sheekhu mawsuucu ahaa runtii aad qalla yani in la helo isagoo kale marka waxaan aniga la yaabay waxyaalaha la yaabay waxaa ka mid a doctor yuusuf qardaawi waa sheekh caalima waa mujtahid sida uu sheekh doctor cabdibaas sheegay mujtahidkana horta bashar weeyo wuu khaldami karaa oo innaga madhabkeenna macnaha macsuum ma jiro ila alambiyaa laakiin culummada mujtahidiinta khaladkooda mid isaga la mid unba garan karee nin kasta oo kullu man habba wadaba ma sheegi karo waxaad arkaysaa mid meel fadhi oo dhahaya sheekh anu waan ka soo horjeeday wuu khaldamay waxbaan ku didaraa oo isagu muxuu yahay kaasu macnaha waxyaalaha maqaayista waxay ka mid tahay khaldan ها صحيح الشيخ وخلدمي كرا لكن خلد كشيخ وخلدمي يوحو كو خلدمي وها اوغان كرا مد اسغا متقنا لدرجه هو اللي بيسغاري او مجتهد كسو كلا اوغان كرا اللهم نحرسته الشيخ محمد غزالي هذا العجيب يا laga haya wuxuu yiri sheekh Yusuf Qardaawi ardayga u ahaa aniguna markii dambe waxaan noqday arday baan u noqday fatalamatu aniga macna marka ragga waaweyn ee mataqana culimada sidaasay isu fahmi jireen marka sheekha allah u naxariisto wixii mataqaanaa qof kale ama qofku raaligelin ama afku taagid ah waxa weeyaan isaga u taalla marka wax kale aniga hadda maartay ma ku soo darayo waan ducaynaynaa jazaakum allahu khayr ilaahayna kulankeena qaawa ka dhigo kulan barakaysan oo kulan khayr oo kulan ducaa oo habeen jumca waaye mataqaana marka intaas horta waa intii maartay aan ku darsan lahaa aniga khayr allah ku siiyo way noo joogaan macnaha mufakiriintii iyo dakaatiradii iyo raggeena way joogaan waan dhigin doonaa insha allah jazaakum allah khayr waxaa igula jira aad baad u mahadsan tahay sheekh maxamed oo jazaak allahu khayran qodobkaa taabatay waa qodob muhiima runtii dabcan majliska in laga yidhaan ay tahay waxaa igula jira oo iu suuroobeyday in uu soo galo netka sheekh maxamed sheekh rashiid oo reer america ahaa masaajidna ka asaasay magaalo minnesota u dhow haddana ku sugan nairobi sheekh maxamed may maqashaa soo dhowow waa rajaynayaa inay ummaddu ku maqlayso khayr allah ku siiyo kelmadaadii iyo ducadaadii soo dhowow sheekhay marka u horeysa waxaan salaamayaa akhyaarta iyo axibada meesha ku jirta ayaan salaamayaa salaamta islaamka ayaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh wacalaykum asalaam salaan kadib barnaamijka caawa yani dadka mataqaana soo qaban qaabiyey oo mataqaana ugu horeeya sheekh maxamed johari isaguna soo kale iyo intii lama eeg baa iyagana aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa intaa kadib sheekh yusuf doctor sheekh qardaawi allah u naxariisto sheekheeni caalimka ahaa mataqaan maartay dabcan muslimiintoo dhan iyo caalamkao dhan bini aadamku ka geeriyooday mataqaana naguma geeroonin dadkao dhan iyo mataa caalamkao dhan bo mataqaana ayuu ahaa munawir ama mataqaana iftiimiya uu ahaa marka ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa in marka hore qabriga alla waasiciyo ilaahay ugu deeqo jannaatulfirdawsa ugu deeqo dadkii mataqaanaa ardaydiisii karaamadiisa oo dhammaantaynu kamidana kawadmanahay
يا أنتي كربنا إلهي في صدر إيمان نقصيو يا إن على أنتي متقنا شيخ يوسف غلاوي علي أنت كدي وليال شيخ يوسف وحوها بحر لا ساحل له هذا متقنا ما تيانا قونتي يا علبي بيسا waxa mataqaana maanta iyo turaadkii uu ka tagay waa inuu waa yaalaa qof kastana dee intii uun maaragtay uu isagu ka arkay ama uu ka akhristay gaana maanta waa taalaa anigu shakhsi ahaan markii igu horreysay oo aan mataqaana Qardaawi kutubtiisa kitaabkii igu horreeyay oo maaragtay gacanteeda ku dhacay wuxuu ahaa kitaabka الحلال والحرام في الإسلام كتاب كاسا يقول الرئي انت كده بين كتب تساوحي ونهري كراي ومتقنا ونهري كراي ومقاطي مركز شيخ ان الهي نحريس هاسيو روحانتي قفكو مركو هير درجة متقنا علمية هي درجة متقون وقارو لواي ما هي قف مارتي وحكا الشيغة من لما وين هاي مركز وحان خصوصنا هاي تضبط تميادي أما سقاشميادي مركي حلي راسو كله وحنا حدودنا هاين أي دعي ضد وكسر سن هدي أي متقن يسابو شيخ حسين ودكتور هاي وحو متقن رنتي ومشي كل فكرة هاي حتى إلهي يسقون أن قامته يباوث بموجة الله أوصي لكن واحد لا الحمد لله قفك وحي نيدي سوليد ونكسن أو سكو فكره إلهي أبوك درسين هجاسي كسرت النصوص يوم حديثها كسر رتبة مركا وحا متقنا مارت شيخ اللي قاس وفقنا ذكي خريجها وقران سعودي هي وحا لويدي فلسطين نورك هذا متقن نورك مارت قيب كمذا ما كتنازلي كرتا أو يهودا متقنا ما تنازلي كرتا rag adigu culimada kamid ahaa ayaa kolka arintaas iyaga maartay runtii ayaa qaarkood soo jeediyay haddii ay maslaxa ku jirto adigu wixii aad xoog ku weyday oo xoog ku soo ceshan weydaadeen haddii ay maslaxa ay ku jirto inaad wax un maartay aad ka hesho way bannaan tahay bay yidhaahdeen marka tusaale ahaan waxay soo qaateen yani ghadwadii xudaybiya rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii sulxiga galay marka arrintii kolka adigu sheekh baa arrintaasi taarayay su'aal la weydiiyay baa isaas ku jawaabay sheekh mataqaana Qardaawi baa kolka arrintaasi soo gaadhay marka sheekh Qardaawi arrintii mataqaana wuxuu yidhi ma dhulka mataqaana maartay Qudus iyo Masjid al-Aqsa iyo Qudus iyo Falastiin dhulkaas yani taaka wax kamida oo sulx gali karaya ma jira buu midda kale haddii mataqaana maartay ay maslaxa ku jirta adiga ninkii واحد أنت هذه بوري وحوك هذا قاطي إن متقنا مارت أثر هدوك إلى ذو يعني كل هذا حال قلبان كاسين هيا كل كسادو مراتو ناس وحول متقنا ما هبوري متسرع معها مركا أرنتي مدة أجي سعودي أو الأسبوع اللي أو جلوس وقلا يدورال كان متقنا المسلمين اللي تري يمتك متى المجتمع هذا قص وقلا هي لكن هذا هو الحمد لله ودنبيستي شيخ سوها أيها كلك ما تيا نقطي وحتى علماء أرنتاس متقنا مركز إثارين يسي أما سوج متقنا له كلك هدي أي مكان فلسطين وحنا هدي الله كلها هي سوتي ويجالي كرايان وحي متقنا مارتي ويجالي كرايان لا نفتو دي دب مثل وقتين مدة كلك حديبية سووا حكون قرداوي الله نحرسته وحجري dadkii markii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo nimankii qurayshay dagaalamahayeen gurka uu ka wada dhexayay buuri way ka wada dhexayaan loo kala boo xagga mataqaana maartay caqiidahan ama diinahan loo kala maartay laakiin dhulkan mataqaana maka way ka wada dhexaysay inkasta uu ku dhashay deegaankiiba ayuu ahaa laakiin wuxuu dhulka hadda mataqaana Qudus ama mataqaana Baytul Maqdis ama dhulka isaga Israa'iil waxba kuma laha haddii ay wax ku yeelan karaan iyaga oo muslimiin ah bay wax ku yeelan karaan laakiin qaabkan hadda xoog bay ku qabseen waa la ogyahay in mataqaana cadawga islaamka arrintaas iyada ay gacan lagu siiyay oo dhulka mataqaana gacanta loo galiyay Israa'iil waa la ogyahay marka sheekha ilaahay khayr ha siiyo ilaahay nabad qabriga Allah waasiyo yani arrintaas iyada
sutii si fiican ayuu maarata arrintaa u dhirandhiriyey ooga hadlay dadkii adigu marka xilligaa joogay dad badan baa kolka leydi waa si uu qardaagu sheegayo weyn dhulkaas maartay marka isaga dhulkan anigu intaan aad iyo aad qardaagu ugu sii qadariyay waxaa ka mid ah oo runtii aan mataqaana weligayna maskaxdayna ka baxaynay yani baytulmaqdis ama qudus ama falastiin qadiyadooda weligii mataqaana maaragtay ayuu sheekhu mataqaana taa ka yar kamamad weligii maaragtay inuu laga tanaazulo weligii taasuu kasoo horjeeday nacam marka dadkuna kolay la waayi maayo maanta dee culimadii iyo dadkii mataqaana maaragtay ay iska badnaadeen oo dee nin kastaba maanta kullu waaxidin yudri dalwahu ay iska noqotay in wax ka sheega waad maqli waa mataqaana maaragtay culimada iyo akhyaarta waa sii sheegeen in naqdinaysa sheekh oo le mataqaana yani maaragtay run ahaantii waxyaalaha aad iyo aad aan mataqaana ii soo jiitay waxaa ka mid ah suuratul israa oo kale markii mataqaana maaragtay barnaamijka dhaleeda waxaan leeyahay mataqaana shariica walxayaat xalqa waxaa ka mid ah la weydiinayo la yidhi maxaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam masriisa ama isrihii maxaa u aaday baytulmaqdis u aaday oo marka looga dhigi kari waayey yaa la weydiiyey sheekha marka wuxuu yidhi maaragtay baytulmaqdis dhulkaas asalaan wuxuu ahaa waa dhulkii mataqaana mahbadul ambiyaai weeyaan ayuu ahaa marka rusushii laga soo bilaabo nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam iyo wixii isaga ka farcamayba dhulkii ay mataqaana ayay ahaayeen kolka halkii ay wax ka bilaabmeen in lagu dhammaystiro nabigana calayhi salaatu wasalaam markii uu maaragtay baytulmaqdis u tagay ambiya oo dhan ayuu mataqaana ruuxdoodii arwaaxdoodii loo kulmiya ayuu mataqaana noqday waxaa kale imaamka noqday taasaa kolka lagu dhiibay suldadii mataqaana ay reer banu israa'iil marka hore ay gacanta ku hayeen waxay ku wareegtay kolka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo dee وأن بركيزن سيدا مثلا سورة مسرى باللوغة ما سبحان الذي أسرى بعبده الليل من المسجد إلى المسجد الأقصى الباب باركنا حوله باركنا حوله معي تاي أنبياء إلهي يسوع الله هم بمتستقان ما منافع فباي كتبتو أيا كل كمارتي مركز صحوي وحيالا رتي آدي آد لو قدرنا هاي ومتقانا فكر كيسانا ما تهدو ياهي محمد مسكح هاي هدو داعد ديجي هاي هدو ياهي متقانا ياهي لحم وياهي هدو متعظم وياهي نفتي صورنا وحو متقانا مارتي وهبايا وحي يضو سيكو دعوة يا متقانا دينتان جارسين تذا متقانا دونك أدنى بيت المقدس يروكا ما فلسطين قد يضوضا أي آدي استغوا ويني نعم إنه متقانا ماتي وذلك يستير مركي جنازة دمارتي لتكذي أو لأسهي إنه متقانا ذكي ماتشو قد ما انتوض الإسلام ذكري متقانا قضية فلسطين قضية مقدسة إذ متقانا مارتي كتنازل كروكا سمدرتو marka aad iyo aad baan runtii aniga aan ugu qadarnayaa barakallahu fiik yani مثلا sheekh Fawziis Qardaa u kala laasiyo yani si uu wax mataqaan u tanwiiriyay wadu si uu mataqaan runtii ummadda ma aqliyadii yani aqliyadoodii uu mataqaan mid ooga dhigay yani wax ku ool ooga dhigay ama kutubta uu sawu mataqaan maanta uu ka tagay ee qoray Allah oo mataqaan kala duwan noqoto muhaadarooyinkiisa noqoto أما متقانا دروسي كانوا بحين هاي كوب حيث مساكين نقطة مرك على كل حال آدي أدرتي وحنو هاد ما تعترنا جاريدا علومة سين وصلنا ومتقانا وجاري آدي أدو نحو ذم ويا نعم مرك إلهي سبحانه وتعالى يعني كتاب كيس آمين الله كسيو آمين لما قبل الله واسعيو آمين يا رب الفردوس إلهي متى هو داقو إنك دمان تهدنا ذاتك أحبادي سي يو تلاميذي سي يو ذاتك مشاهدها kutubtiisaad mataqaana maanta iyo isaga mata wax sheegaysii ku taaturinaan iyagana ilaahay samar matana ka wada siiyo marka intaas baan maanta yaan idila wadaag lahaa idinku aad iyo aad u mahadsan jazaaka allahu khayran sheekh maxamed sheekh rashiid aad baad u mahadsan tahay from nairobi adigana miisaanka xasanaadka allah kuu saaro ducadana allah aqbalo baaraka allahu fiik aad baan kugu mahadinayaa sheekhay jazaaka allahu khayr أحبابتي aad baad u mahadsantihiin جزاكم الله خيرا waxaan soo gaarnay gabagabadii waxaa inala jooga طبعا sheekh cabdiraxmaan
oo isaguna qayb ku lahaa fikirkan ilaahay ha barakeeyo in sheekha loo duceeyo qaybtii waxaan soo gaarnay marka sheekh cabdiraxmaan in uu ka yidhaahdo isaguna 2 kelmadood kabacdina waan soo gabagabaysanaynaa oo ducaysanaynaa biidni illaahi alkariim inkastoo sheekh cabdiraxmaan uu kelmad dheer iyo article dheer u ka qoray arrinta sheekha waan soo dhaweynayaa waan ka cudur daaranayaa culummada qaarkood oo soo geli lahayd umaysan suuroobin barnaamijka qaarkood inay barnaamij isku dhacay qaarkood inay shaqooyin iyo iskuulla ay lahaayeen ilaahay baan uga mahadinayaa inta ay u suura gashay inay kasoo qayb galaan inagala soo qayb gashay waxaan rabaa halkan inaad ugu ducaysiin sida oo kale walaale cabdinaasir ganay oo reer muqdisho ahaa nin sugaanyahan ah nin aqoon-yahan ah jaamacad muqdisho qayb weyn ka ahaa af soomaaliga hay-adda pen isaguna maaragtay qayb weyn ka ahaa oo maalin ka hor maalinta uu sheekhu geeriyooday isaguna geeriyoodayoo wadnaha qalitaan uu u galay u dhintay ilaahay subxaana watacaala isagana ha u naxariiso sheekh cabdiraxmaan soo dhowow jazaak allahu khayran aad baad ugu mahadsan tahay sabirkaa dheer iyo fadhigaa dheereed nala fadhiday 2 saacadood ku dhowaad soo dhowow sheekhay xayaak allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه جزاكم الله خير وحان إلهي مهنقي سكدي وحان مهنقي برنامج كي نودة دهينيسا وأستاذ أحمد يا شيخنا الشيخ محمد شيخ عدن أدبا ما سنتين جزاكم الله خيرا وإياكم علماء لما أنتم وأنا مهنقي كقيب شي برنامج كا marka waxaan jecelahay mawduucan sidoo sheekhu sheegay Axmed kelmad baa ka qabtay aad u dheer saacad iyo rubuc socotay maqaalna waa ka qoro gaagaaban laakiin maqaal dheer baan shalay toole aan soo dhigay alxamdulilah muslimiinta carabta iyo muslimiinta soomaaliduba ay wada akhriyeen marka intaas haddaan ka baxo waxaan jeclaa sida ay sheegeen culimo badan دكتوركا أما علامة أما إمامكا أما مجتهدكا أو صافتا لو أقولادي رجل لم يدها يسقى أمبا وشيخة وها أمبا نيتكا لها أقرانتي كوي كليت إيه أدونك جريبة وأقولادين يعني إن شاء الله تعالى كو سفينينا إلهي نحريستي جنها سيو إنت حتى نخبحوا وحن جعلها إنا الشيخ دور ريموتكو قلت أنيقو ما دام أن أرضي وها ما نقلنا إن الأرض وها وحان كفر حسنها إنه مسكح ذا أنت أقول بدن يسوي سمين مركا أم بيسقي علماء لا يسمين واحد هذا طبعا قفبا التأثير السيء نور شيء ذا مركا معلميتي توس كي والد كي اللي يمادو طبعا قفبا سفكري التأثير السيء صدحنين وتاريخ ذي جوغان ورقع العلوس إمام غزالي رحمه الله يا إمام جويني رحمه الله يا إمام ابن تيمية رحمه الله صدق عنين تأثير كأصولي يقوليين إلا ما أنت عن أركو تضمن إنه ما أنت عصر جنب جوجين حاكم إذا ابني قطب سيد قطب يا محمد قطب وحاكم إذا لبدا صاحب قرضاوي يا غزالي وحاكم إذا ترابي يا غنوشي قبلنا وحاكم إذا سلمان عودة ومسلمين تحدث مركز على جيمة درة قلبتك ما كيجن كواس با إنت بدن سمي وحنا عمق أسمي شيء قرضاوي كتاب قرضاوي قري أو أن أخرين مجرو وحا قري أو دنوان أخري محاضرة أو قلي ويرتهي أن دقيسن خطبة أو جيدية أم بوان أخريي أم بوان دقيستي إنتان صور نولا كلنا بدنا وان لي هالشيء الحمد لله أنا يربان أركي رياض كو أركي وأدو دل يراء استغونا أمركا نشاط كأوين أيو كديمنا وحنكو زيارتي مقالة الطوحة جلسات سطحة إيا الله فريستي وقار أسئلة أنسيدي وسؤالها يجي جوابي قارنا أن نصائح نسية أنيقا إيا علماء إلى صعوتي
يركا أو سياسيين أو رير جيبوتيا رحمه الله رحمة واسعة مركا إنتاس أن كإمادو وحان إسلاهي الشيخ يوسف القرضاوي أنو شخصيا مركا كهذا اللي سنعضو وحان إسلاهي يوسف القرضاوي waxa uu kaga duwan yahay culumada adduunka joogto oo dhan waa lixsifo marka soo koobaya horta wuxuu lahaa nadra shumuliya maaha shumuliyatul islaam maaha islaamka ilaahay baa shaabil ka dhigay laakiin isagu markuu wax eegayo qadiyad inuu baaro uu doonayo dhinacyadu kaga imanay ihaadu ku sameeyay kan ladayhi nadr manhajiyadiisu waxay ahayd nadra shumuliya marka waxyaalaha aan sidoo sheekh Abdul Basit sheegay maxaan ka faa'iideysanaa haddaan culimo nahay النظرة الجزئية هسه كتغنو وقضاياها كلنا النظرة الشمولية بقى شيخا waxaan kaga yaabi jiray hadii la weydiiyo sigaarku ma xaraam ba sigaarka kama hadlayo dushu kaga imanaya al-darar al-idrar yani si shumuli uu eegaya qadiyadii juz'igu markaa uu imanaya sheekh al-Qaradawi kan ladayhi nadra shumuliyya arinta labaad oo culimada aad uga duwanaa waxa weeyaan kan ladayhi ihata bil waqi' واقع مركو كهذا اللي يدحضنا دينا والبا وكغا ايماني واقع اريتا waxaa lamid ah Rashid Rida oo kale rahimahullah amba Albanna rahimahullah amba Salman Awd imika oo kale hafidahullah wa fakka Allah asra waxa weeyaan dina walba qadiyada oo kaga iimanaya oo soo koobaya alwaqi' alladhi yurid an yaqusa fihi aw an yakhudha fihi marka taasna culimada inta badan waa kaga duwana kana yajma'u bayna an-nass bi shumuliyatihi wa bayna al-waqi' بواقعيته وشموليته لما دام سكر جل أنا تصدحات لها شيخ عجيب كأو حويان الجلد في البحث قد يبدأ كمو هدلين إلا أو آد وبارو مثلا وحان إنه بارته إنه قال قيب قال يا إن أخذنا كتاب كيسر هذا موجبات تغير الفتوى وحيالا كيسر إنه فتوى يثبت شو وحا كهلا يمرك أخذين من البداية إلى النهاية كتب الفتوى أو الإفتاء قديما وحديثا هذا أخرج فيه جديد وعصب كهلا يعني لبو وكان يا وحيالا عمق له صدح وحيالا وكان يا وحا كمذا وحيالا أن ولي لتابن مثلا ابن القيم ابن عابدين الغزالي العلماء الأقدمون وحي كهلين أفرع رموضة فتوى البدشة المكان الزمان العرف هي الحالة يسقوا كان التمنين بالتوشي أو فتوى البدشة مركا وحولها وحلو يقانو أرنتها أسبا يا إسقنا كبير هيد والتجلد في البحث صبرك أوليه مدة كقادني سي إنه وحبارو أرنتا كليت أياب كلا أو إمام كلها رحمة الله عليه وحكم إذا عدم التسرع في الأحكام مدق دقي جيل مركو قد يتبار أيو دق ملاهي أرنتا وقت بوغليني لنا والبوك إيماني مدة كقادني سي رحمة الله عليه ما كان يفتي على الهوى إلا الأمور الصغيرة أمور تعول العروس أوردن وقت بوغليني مثلا قد يضع الاستنساخ وتقانان qof ma la abuuri karaa xayawaan ma la abuuri karaa oo maartay hooyo aaba aan lahayn jirka ma laga soo saari karaa adintiisa markii la baarayay raximka iyo jaarka la kareysanayo markii la baarayay hadii uu qofku samada tago fadaaga sidoo shanta waqti u tukanaya markii la baarayay maartay waxyaalo wada jadiid oo wada cusub iqtisaadka islaamiga kamida muddo uu gelinayay badegdegayn laakiin marka uu yiraahdana waxa uu ahaa nin ra'yi uu soo baaray adduunka ku soo daraa wax cusub ba marka la maqlayo arintaasna uu lahaa rahimahullah waxa lada waxa kamida uu lahaa imaamku uu dadka kale kaga duwanaa waxay ahayd in uunan cabsan la yakhaf billahi lawmata la'im ra'yigiisu siduu yahay buu u sheegay hatta walau khalafa jami'a an-nas hatta walau khalafa aqrab an-nas ilayhi wuxuu oranayay hada huwa ra'yi alladhi bahastuhu ilahi baan ugu dhawaanaya tabaaraka wa ta'ala مسائل فربضان baa lagu warbiyay waxa kamid aha gabadha haday islaamto oo odaygeegu uu gaal yahay may furmaysaa bi safafras waxa ugu horeeyay turaabi laakiin way ogyihiin dadka Yurub jooga khaasatan Sheekh Maxamed iyo in uu maartay qadiyada ku tagay an tabqa fi ismatihi inay joogayso muddo farabadan ilaa waqti la siin karo 7 mas'al ra'yi baa ka jira ibn al-Qayyim baa soo ururiyay Ali ibn Abi Talib baa qabay laakiin anagu hal mas'alad baa naqaana tutallaq baa naqaana لكن يسوي وحو كان انت اسو شيء وحو نكو واجهي
mashaakil waxaa ka mid a xukunka uu ka qabay ghinaaga heesaha fikradda uu ka qabay baa ka mid a bilaala in haddii shuruud la helo ilaa 7 ah in la ogol yahay fankaa ka mid a waxaa ka mid a axsaabta siyaasiga ah waxaa ka mid a dimuqraadiyadda waxaa ka mid a alxuriya qabla shariica waa laga yaabay laakiin markaan dib u akhriya anigu waxaan arkay tacliilkiisa wuxuu yidhi ayu shacbin laysa xuran laa yastadiic tatbiiqa shariica shacbi aan xor ahaynin shareecadda islaamka ma dabaqi karo hadda baqaan waa kale sacuudiga mar quraata shareecadda waan ka tagayna ayaa hadli karaya nin hadli karaya ma jiro waxaa yidhi waan ilqaynayna maaragtay dastuurkii waddanka tunis ayaa hadli karaya nin hadli karaya ma jiro annaas cindamaa yakunuuna cabiid siduu sayd qudub sheegay hadday curka uu dao xurriyad qaar baa ka qaadanaya dallad oo ka harsanaya xurriyadda diidan marka dadku haddaynan xoroobin shareecad ma dabaqi karayaan buuri idan awalan nuxarir waa siduu arduqaan yidhi arduqaan markii lagu yidhi maxaa shareecada dabaqi leedahay horta waxaan samayn buuri mujtamac xor ah iqtisaadiyan siyaasiyan caskariyan kadibna shareecada dabaqa laakiin shareecada yaa dabaqi kara buuri marka imaamku raximahullah wuxuu yidhi ana araa awlawiyata an yajida annaasu xurriyatahum summa yutabiquuna shariica aniguna markaan fiiriyey laa ilaaha ila allah waxaan arkay alxurriyatu qabla shariica annafyu qabla alisbaat laa ilaaha ilaah la caabuda ma jiro nafyi wey anu waxba ma caabudayo ila allah isbaat marka dambe u noqonaya ilaah idan annafyu qabla alisbaat alrafdu qabla alqubuul alxurriyatu qabla aliltizaam qofku intuuna wax iltizaamin maxay ahayd qaacidada sharcigana ee fiqigana maxay ahayd waxa weeyaan albaraa'atu dhimma alaslu baraa'atu dhimma dadka iltizaamka waxa uga horeeya inayna horta waxba dul oolin ilaa ilaahay kalifo tabaaraka watacaala nacam okay arrintaas shanaad waa taas oo shajaacad buu u lahaa an yaquula alxaq xiina tatadixu lahu arrinta lixaad ee uu dadka kaga duwanaa waxa weeyaan wuxuu ahaa rajulun nin buu ahaa ummadda islaamku se u idishahay tabaniyey mashruucooga lam yakun طaa'ifiyan ma ahayn طaa'ifi lam yakun madhabiyan madhab ma ahayn khaasatan markii dambe oo islaamka uu aad mujtahid noqday jamiicu almadaahib cindahu sawa lam yakun maaragtay xataa xarakiyan xarakada ikhwaanka uu ku faanay wayna ku faantaa uuna ku jiray kamana bixin dadka qaar say dhahdaan lam yuclin annahu kharaja minha walaakinahu wuxuu yidhi quyuuda tandiimiga iga takhfiifiya maadaama aan noqday qof weynoo ummadda inii soo jiidi karaya idan tarakuuhu haakada lakinahu kaana yaftakir biha wuxuu qoray alikhwaan almuslimuuna 70 caaman kitaabkii khatarta ahaa oo ku difaacay ikhwaanku 70 sano galeen oo ay sameeyeen waxa maanta dunida ka socda in iyaku ay ka dambeeyeen wax badan oo dunidan ka dhacay oo dhinaca shareecada islaamka tatbiiqa shariica ay ka maaragtay dawla iyo xurriya iyo karaama waxa dadku ay dareemayaan alxijaab inay ku lahaayeen juhuud jabbaara iyo kitaabka ku sheegay إذا أنت سوى أنت سويا وحويا إخواني في الله ماذا نستفيد منه أدنى سوقه وخلاص معك فايدة سنة هذا الإمام الجليل رحمه الله أنكم هدانا هاي الصومالي أبناء القرن الإفريقي أبناء الأمة الإسلامية معك فايدة سنة شيخ أنا وحيلتها هاي أفرع الموضة كفايدة سنة وسيلة ثانية هو إني كان يقع البدن أولا وحا كفايدة سكرنا وحال هذا شيخ وحيالده عجيب ككوها وحويا التجديد والإبداع شيخ اسمه تاجين بابا هاد يجر تقرأ له جديدا وكان يبدع في الفقه سبحان الله العظيم مركا شيخ عظمتي سوحي كجرتي التجديد كإبداع أنا محارب علماء الصومالي دو إن كانوا تجديدا وإبداعا إن نستاج لا نتوقف لا نسكت لا نتحدث عن الماضي عن التاريخ سيدان هانجرني maaha maanta waa inaan ka hadalno marka ibdaac iyo tajdiid iyo sheekhu cabqari ku ahaa raxmatullaahi calayh waa ka faa'idaysan karnaa arrintaas arrinta labaad ee ka faa'idaysan karna waxa weeyaan an natarafac siduu doctor liibaan sheegay laakiin tatbiiq baan u baahannahay doctor liibaan waa mas-uul ka mida mas-uuliyiinta xarakada islaamka khaasatan alislaax khaasatan fi fasiili min alislaax waxaan u baahannahay marka inaan keenno fikir saxa بحول النبي صلى الله عليه وسلم أبي موسى الأشعري محو كيدي تطاوعا ولا تختلفا بشرا ولا تنفرا يسرا ولا تعسرا تطاوعا ولا تختلفا ما توحى له بهي أن نتطاوعا إن اسكت جبارة استجل عنه كينت أنا الحق أنا الصواب أنا الحركة أنا الدعوة أنا التاريخ أنا كل شيء واحد قال لسه على شيء
كلها waxay ku dhamaan lasta ala shay nahnu nurid ikhwani fillah an natatawa'a imaamku muxuu ahaa wallahi alazim waxaan ku ziyaartay fi maktabatihi waxa weeyaan madaxan ka dhukaday waana soo dhigay beesheeda taala saxada aan madaxa ka dhukanaya summa nilma iga soo yaacday waa hor fadhiistay wuxuu ii soo dhaweeyay kaanani amithlahu adduunka laba nin buu ugu jeclaabaa nin khaalid mashcal dhahdiyo iyo salmaan cawda dadku ugu jecel yahay ku jireen baa marka ay u yimaadeen kursigu uga soo dhadhacay sheekhu wuxuu ahaa caadi ma ahayn haddaan darsi ka barayna faan uma baahna suu sheegay doctor sheekh cabdilbasit waxaan u baahannahay an natataawaca ikhwaani fillah halkaani waxay la jooga maraykanka kanada caalimkii asaasay alxaraka alislaamiya alislaax fi somaal دكتور شيخ مارة قريرة محمد قريرة لا أحد من أبنائه يزوره يعني دت كأنه كلام فارغ لو بحنه ركبة سلا وهي أن أبد كيسي أرهين يا سلا أسيدا دت بس وهي نحن نريد يعني إن نقول شيء آخر كلامك هيرينه أن نتطاوع نعم ما هكبرنه أريد طلبة أريد صدحات إمامك اللي قبر كريم وحويان العمل المستمر والمتواصل حتى الموت إنا وضن الشقاء نستاغين إلى أن دمانينو كورن ما ننتي ودماني يكهر تضبعشو وحالو كياني كتابتي الأعمال الكاملة بقول إيشان مجلد إلا دميي إنا لسوء دميي وديار أتهاي واقع شيخو يعني خلاص فرح waxaa dhada culimada faraxday adduunka waxa kamid ah abul ala al-mawdudi oo kale markuu jamaaca islaamiga ka tagay uu sameeyay qaa'idkii dhaxlayay uu arkay iyadoo shaqeynaysa wuxuu yiri al'aana astarih al'aana anaamu qariir al-ayn maanta waan seexan karaa lianna amali sayastamiru ba'di waxaan u baahanahay maanta waxa weeyaan amalka qofka waran waa boqol jir marka hijriga la eego taariikh hijri waa 100 sano ayuu dhameeyay 100 sano boqol sano لكنه كان يشتغل كأنه واحد يستين المقابلة والجزيرة لا سميس يرى ضفيري مركو ورئيسنا يدو معوكود أمارتي شيخة وعوكود الشيخ واحد وشقيسا كأنك شاب جلد إن يرى دل يرى واحد حقرتا كأنك شاب جلد إن يرى دل يرى وحويان عظيم بوها رحمه الله يعني وكي شيء الشيخ بارطي بن معودي وحو صوت دواما طبعا سبحانه لبيه طبعا أنا وين دقيسالكاس إن يربان كبح أبو قبيل المغرب وان صوت سيحدا حاس كان تجا وحن صوت عنابو عنتير وكسر النقطة لبيه طبعا كحبينه مالين بان ويدي شيخة قرن حقرتها وحوري مركا أي هردد يقدر ما تقرن يقدر ما تابعه لبدي بركة سبحانه لبيه طبعا يوصي حدا لبدي بركة يقدر ما ترددي حوري حينها أقوم وصلي ما أستطيع أن تكذو كديم مكتبة عن تجا أكتب بعض الكتب وحنكو قرابو لبعش بعض الكتب وحقوق ورا سفر كداير ديارده 9 ساعه 8 ساعه من دوحه الى ايو ماليزيا مركو تيجي رسائل بقر marka taasi waa saddexaad weey ugu dambeeyay ikhwani fillah aan ka faa'iideysana dadkeena sharqi afriqiya amba qarni afriqiya amba Soomaal amba umma islaamiya sheekh maxaan ka faa'iideysana waa muhiim waxaan ka faa'iideysana ihtiraamuhu li ahli al-ilmi wal fadli wal hikmati wad din شو احترامي رحمة الله عليه إمام غزال إمام ابن باز قارئ ابن باز إمام ابن أديدا يعني عذر هذا كم تجرون كنا إمام ابن باز رحمه الله وحو كقر الشيخ مقال طويل بل وكرده في الضوحة وحو تغي مكة صلاة دي بوكتو كذي وحو كقيب قال آسكي عثيمين آسكي بو كقيب قال رحمه الله وحويان الباني وحو كقر مقال دير وحو كقر علي الدنداوي مقال دير dadka oo dhan waxa loo bixiyay kitaabka al-a'lam kitaabka ka akhriya al-a'lam kull al-ulama kana yahtarimu wa ihtirami jari wa kana ma aratay yu'ti haqqahum hatta hada khilafan sheekh غزال sheekh bibazu xukuri kitaabka al-halal wal haram lama qori karo lianno sideed mas'aladood baan ku khilaafsanahay aniguna habeen dhaweyd baan antiriyay inta mas'aladood ku qoran waxaan arkay waxa ku qoran 300 mas'aladood 300 mas'ala وحقوق خلافة سيدات وحول لما طابعي كرو كالله الشيخ سام كو طابعنه شيخ وحكيري كمان الله ميو عن واد ذا اجتهاد ما ادى به اجتهادي وين كمان الله ميو شيخ بباس واخريي هذا الكو سو قري وحول كتاب كلا طابعه سنه كده ما نحو كان حشكيمو وعزومي
مركا كان يحترم الناس، كان يحترم الكبار حتى ولو اختلف معهم. كان يقول لهم أدوان ما حد عجيري مكان حويني الشيخ حويني مصري يعني فكرتنا أخية حويني وشيخ أثري وحنبلي شيخ قرضاوينا وشيخ مقاصدي والله وانا شيخ محقلوا ليه وحنفي ولما تسدوا أدو كلا دون فتاوض الله بدا الشيخ ويس خلافسين جذريا كل المسائل الكبرى ويس خلافين المسائل الصغرى الفروعيه هذا مركي الشيخ حويني لك يعني ضوحه وحنوستي اول الزائرين قرضاوي بها اول الزائرين بشيخها وزيارته وسدعي عاو مركي شري توردر الاسينا اسك ددكي ugu horeeyay safka horeeyay ayuu sheekhaas ku jira weyn uu duceeyo ooyin hada yani illa is-ihtiraamu ina maartay culimada la is-ihtiraamu war khilaafsanahay laakiin naxtarimu nakhtalif laakiin la natafarraq wa duruustan ka faa'iideysano waan hadlaynaa sheekh maxamed sheekh aadan oo macallinkayga waa ustaadkayga wax badan buu og yahay sheekh axmed jawhar doktorka weyn ee maqaasidiga sheekh maxamed maxaan ku dhadaa sheekha weyn doktorka maartay liibaan sheekheeni weynaayo sheekh bashiir يعني خلونا من الكلام سيدو شيخ عبد الباسط وكو تاغير شيخ عبد الباسط انكو waxaan maanta u baahanahay inaan ficil la imano sida sheekhu ahayo kale oo aan natataawac la natafarraq mahma اختلفنا نحترم بعضنا بعضا inaan isnaabno saabu lahaa waxaan adoo iga raaliya sheekh waa degdegaysa waa ka dadayna dhamaanteen waqti badan baan qaadanay waxaan oran lahaa sheekhan waan aragnay iyo inoo sameeyay dadka waa la sameeyaa ilaahay kadib waa la sameeyaa ya inoo sameeyay sheekh ya sameeyay sheekh la yiraahdo qardaawi ka dhigay bacd allah waxa weeyaan lix meelood تكوينه الازهري الازهر الشريف حين كانت ازهرا ازهر ما سميت شيخ الازهر الشريف ازهر عادي ما والتكوين بلد ازهر لبا وحاسمي حسن البنا وحركته مهم جدا وين حسن البنا باسمي هدو حسن البنا لكل من ونكتر باسمي لما اركين قرضاوي صدح وحاي نو سميي اعلام خاصه او كميديا غزالي كان شيخه الاثير عنده الامام الغزالي امام غزالينا هي قرضاوي ما كدحيا وحا كدحيا الحرقه والبكاء والله ما رايت عالما يبكي بسرعه الا الغزالي والقرضاوي يبكون كالاطفال ويوهيا بقي لي عسوستان marka sheekh qardaawi sheekhiisa tababaray oo ku hayn jiray xalaqo khaas ah wuxuu ahaa sheekha isaga iyo casaal iyo culum badan saddex weeye afar waxaa tababaray sheekha soo sameeyey culumadii fiqiga ah maaragtay waaweynaa dadku aqoonba abu zuhra khalaaf mustafa zarqa shaltuut raggii fiqiga harriyaa ka yimid maqaasidiinta ahaa yaa sheekha sameeyey waa afar weeye shan shacraawi macallin buu ahaa madrasada u dhigown laakiin sheekh rag waxbaray waa kuwa weyn oo ku taasura sheekh shan ugu dambeynta waxa weeye ama ka hor shan qolada waxbartay waa as-sahwa salafiyya nactarifu bidalika kutubtiisa dambe oo dhan waxa uu ka faa'iideystay wixii loo yaqaan albani culummadii salafiyiinta ee joogtay maxaa dhahdaa qadar waxay sheekh radinayeen xadiiska waa daciif xadiiska waa mawduuc asarka ma sabat waxay u tareen wax weyn تأصيل كده شيخ وحبرت قرضنا وكيف يدستي قرض اللي حاد الشيخ وحوي وترتواي ومفكرين تصاحب كلام دكتور عمارة محانكو هذا عبد الوهاب المصيري محانكو لها مارتي علمدي وويندي مفكرين تاعي فلاسفه تاعي شيخ صاحب ولا نقول وحوها شيخ مفكر الفقهاء وفقيه المفكرين كوا نوي سميين عبد مارتي علي عزت رجع جلسات بولس سميري وحاجري المعهد العالمي للفكر الاسلامي وكويا لواشنطن ادبوا احترامي كتاب كيسا كيف نتعامل مع السنه النبويه مركو قريه معالم وضوابط يكا كعصري مفكرين كانوا ولا فلسفيين مفكرين واحد بدل بيقدر الا او الشيخ نقضي فقيها مفكرا ومفكرا فقيها مركا لحدا قول شيخه انا اسلاهي يكا ايا انو سميي شيخ يوسف القرضاوي حفظه رحمه الله رحمه واسعه واسكنه فسيح جناني وجعله مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم waxaan ku farxay culimo si qaado aad u fara badan oo sheekha manaan ku arkay markuu dhintay oo manaan ku arkay innahu fil janna ku arkay manaan innahu fi isoo ku jira meel weyn oo raaxaysanay sheekh way arkay
markaabay soo qoreen ay ka sheekeen ay leeyihin saasaa ku aragnay mid maaragtay waalan oo qolooyinkan mid muzammil dhahdo qolooyinka wareersana ayaa lahaa dajalul ikhwaan khuraafaadka ikhwaanku waxay ka sheekeynayaan waxaan anay bay qardaawiyo ku jira jannada ma ilaahay naxariistiisa u didaya wallahi alcadiim marka culimada hadlaysa tiriyo waan aragnay waa kibaar ciidan waan aragnay markaa soo seexanay qabri ka soo noqonay yaan seexanayba wajadnaahu huwa fi janna wajadnaahu huwa maaragtay isagoo masjidkii rasuulka dhex socda oo balaayiin qof ay rariya ka joogaan yaan aragnay markaas waxaas oo dhan iyo ilaahay ku galladaystay xubbiga ummadoo dhan ilaahay hanala kulmiyo isaga iyo dadkii ka wanaagsanaa iyo nabiga muxamedaha sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadii ilaahay nala kulmiyo jannada hayna ku suganto inteennana ilaahay kuwii maaragtay diinta u dadaal ilaahay naga dhigo dhammaantiin waan salaamayaa uxibukum fillah wa uxibukum fi rasuulillah wa uxibukum fi diinillah wa uxibukum maaragtay liajli nashri hadihi dacwa culimmada waaweyn ee meesha ku jirta qudaadda mufakiriinta shuyuukhda maqaasidiyiinta saxafiyiinta maaragtay aclaamtii hore dacwadda ka soo shaqaysay sheekh bashiir doctorka kullihim uxayiikum bitahiyati alislaam asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آد يا آد بالله سنتهاي وختامه مسك فليتنافس المتنافسون كلمات آد قيمة بدن أو موجز أنتي ما لا بدن نتعامل أي هاي آد ما كعجم هذا علينا رنتي واردين حريري بارك الله فيكم مرتي أي نوتي مدي ما إذن تدجينين لكن شيخ محمد بن ربيعين خير الله سي محمد شيخ آدن أو يسوون وقت بدن أي وفدية وقت دارنا أي أطاي هذا خير الله سيو reer africa iyaga laftigoodu waqti dheer bay u tahayo aad bay ugu dambeeyaa waqtigu jazaahum allahu khayran aad bay u mahadsan yihiin qaadiga oo kale oo inala joogay maxamed xaaji oo inala joogay aniga runtii taathiir gaar ah ayay ii samaysay janaasada sheekhu runtii wax badan ayay noolaysay waxaan isleeyahay inuu ahlu khayr ahaa ummad badan ayaa maaragtay ku ta'afurtay bal qaarkood baaritaan ay baadheen ay runtii noloshooda wax badan u ka bedelay fikirkiisu iyo shaqada uu shaqaynayay markii u horreysay dabcan waxaa la wada sheegay qofba waqtiguu soo gaadhay unbuu sheegayay sideetameeyadii aakhirkiisii markuu sidaa u yimiday ayaan dabcan sheekh cabdiraxmaan uu ka warqabaa kutub sheekha laga soo qoray oo laga soo gudbiyey aan fursad u helay inaan akhriyo maalin dhaweyd baan soo qoray dabcan facebook ku soo qoray qaybaha uu noloshayda uu ka taabtay uu wax ka bedelay qalbi ballaarnida ka mid ah iyo qofka ku dhiba inaan loo jawaabin oo uu noqon karo qofkaasi berri toole in uu adiga saaxiib ku noqdo waa cajiib aayad qur'aan suuratu fusilat ku jirta ayuu ilaahay subxaana wa tacaala arrintaas ku sheegaya runtii waan soo gabagabaynayaa qofkii u baahan takyiir iyo isbeddel jawaanib badan meelaha aan isleeyahay culimmaduna way tilmaameene sheekhu cajiib buu ku ahaa waxay ahayd in uunan cabsanin uu geesi ahaa mowqifkiisa الرجال مواقف marka mowqifkaasi qofku marka uu mowqif qaadanayana dee mowqifka uu qaadanayo inuu yahay mowqifu calaa cilmin ma aha iska qaadan go'aan calaa cilmin maxaa natiijo ka dhalan kara mowqifkan dhibaatadeeda iyo wanaaggeeda marka ilaahay ha idin barakeeyo caawa aad baad noogu faa'iidayseen jazaakum allahu khayran waanu cudur daaraynaa walaalihii aanan u surtoomin inay nagala soo qayb galaan jalsadan barakaysan ilaahay waxaan u baryaynaa in uu sheekhaas qabriga u nuuro ahlu jannana uu ka dhigo wixii uu ka tegay ee ummadda uga tegay ee dhaxal ahaydna ay noqoto mid ay ummaddu ay ku horumaraan arrin uu ilaahay weydiisan jiray ayaa jirto oonan u suuroobin in uu bayt al aqsa u tago isagoo xor ah
hadday suurowdo uma suurtoobin waan rajaynayaa culummada ka dambaysa inuu ilaahay u suuro geliyo oo baytulmaqdis iyo falastiin oo dhanba ay xorowdo jazaakum allahu khayran sheekh maxamed sheekh aadan iyo qaadi maxamed cumar haddaan idin siiyo daqiiqad insha allah oo aad noo soo afmeertaan kabacdina waa ducaysanaynaa waan ismaca salaamaynaa waanan jimco berri toole insha allah soo dhawaada uu kaa xidhaya codka sheekh maxamed بارك الله فيك أخي شيخ أحمد waxaan rabaa inaan wax yar aan maartay mufakiruna yani sheekh cabdiraxmaan arrintu ka dhawaajiyo runtii aad muhiim oo duruusha waxaa jirtay sheekh oo ku bilowday kulanka bashiir salaad doctor bashiir salaad baa ugu horreeyey qof hadla intaadan soo gelin wuxuu soo jeediyey bashiir salaad culummadu inay ka gaabiyaan inay ka hadlaan ahdaasta hadda jirta iyo dagaaladan hadda ka socda Soomaaliya ee la xiriira dhalinyarta xagga jira iyo sheekada iyo dadka qaabkii looga faa'iideysan lahaa marka arrinta in ma taqaanaa looga faa'iideysto oo la xiriira midda mawaaqifta waan ogahay oo ma taqaanaa runtii sheekh cabdiraxmaan mufakirka markuu arrinta ka hadlayay 2000 iyo waxay ahayd ma taqaanaa iyo 14 baan malaynayaa markii aanu ka hadalnay tadarufka Somali Journal buu ahaa program aan ka duubnay waxyaalaha keenay cilaajkiisa midun baa hadda taagan afkaartii markaa uu sheegay maalin dhowta niman baan la wadaagayay waxyaalaha ku dhex jira oon kulaha ka faa'iidaysta waagaas macnaha youtube-kiisa oo ku jira marka waxaan ka hadlayaa arrintaas way fiicnaan lahayd iyada lafteeda in duruusta laga faa'iidaysanayo lagu daro innagu culummadana Soomaaliya sheekh cabdiraxmaan waa naaqilin baan nahay naqligeennana maaha cilmiga keliya xataa dhaqamada soo rarnaa meelaha kale aan ka keenno ma Soomaaliyeenno waaqiceenna iyo bii'adeenna uma dejinno marka waxaa fiicnaan lahayd culummadeenna in la helo culummo Soomaaliyeed oo aqoontii diinta iyo macaariftiina meel ay tahay cumqigii iyo aqoontii bulshada iyo dhaqamadeeda iyo waxeedina meel ay tahay iyo mashaakilkeeda xalintiisa marka way nagu yar tahay hataa tafkiirka way yihiin hadda mataqaanaa markii la fiiriyo sheekh cabdiraxmaan yaad arkaysaa mataqaanaa qof maskaxdiisa wax ka dhalaalinaya oo soo jeedinaya afkaar isaga ka soo baxday mukhiisa isagoo kaashanaya wuxuu akhriyey ama aqoontii ama wixii marka way nagu yar tahay marka runtii waxaan u baahannahay inaanu maaragtay culummada si aan marxaladda u gaadhno in la sameeyo mataqaanaa barnaamijyo badan oo arrimaha wacyigelin ah oo culummada lafteeda lagu wacyigelinayo intaasaan maaragtay bay ugu dhalisay hadalkii sheekha yaan kusoo gabagayn lahaa jazakumullah khayr السلام عليكم. هذا الله ستة شيخ محمد شيخ آدم بارك الله فيكم. قاضي محمد عمر سودو وقت دنبي كوتهاي جزاك الله خير. هذه أدبا ما سنتهاي شيخ أحمد جوهري فرصة هذه سيسي وأتكم ما سنتهاي وحنوقف فايدة سنة إن مرتي علماء إن عاد وقوم هذا عليه شيخ عبد الرحمن بشير إلهي سبحانه وتعالى maaragtay ha xifdiyo kelmadaha uu ka yirina runtii waa kelmad aan isleeyahay qofkii dhegeysta haddii hadda kelmadan la duubo waxay tari doontaa wax aad iyo aad u weyn marka runtii arrimo fara badan oo muhiima waa laga yiri sheekha anigu runtii waxaan isku tiriyaa dadka xoogaa waxa akhriya ما أرنكر الشيخ دكتور قرداوي كتبتيسا هذا وان وذا أخري لك هذا واحد بدن كوا بدن ما كفى إيديستي ولو حلية هذا قدام بيسي فهمتي الشيخ دكتور قرداوي ودأب النقضي مركا وقفكم عمريو ومارتي وقت بدن وسوقاره وحدعي كرتا إنه النوع ما afkiisii xoogaa inuu soo yaraado way dhici kartaa marka xilliyadan dambe ardadiisa asagu uu soo saaray iyo dadkii uu saameeyey sida doctor Raysuni oo itixaad العالمي علماء المسلمين asaga u bedelay booskiisii galay iyo xarakadan dhaqdhaqaaqan cusub oo maqaasidiga waxa dhigta asagu uu soo bilaabay laakiin wuxuu af sii yeeshay oo sii laba lixaadsaday
markii asagu uu xoogaa yara maaragtay da'du ay ka daba timid waxaana ilaahay xigmadiisa ka mid ah qof kastoo bini aadan wuxuu leeyahay siduu cumri u leeyahay ayaa maaragtay uu haddana tabartiisa iyo daaqadiisa ay iska maaragtay iska soo gabaabsa iska noqotaa marka waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala saamayntii faraha badneyd ee caalamul islaam uu ku yeeshay iyo sida inta uu ardadiisa sii kiciyey inay ayaguna sii jibaari doonaan oo sii wadi doonaan mashaakilka iyo taxadiyaadka caalamul islaami haysta runtii aan dhihi karno inuu doctor Yusuf al-Qaradawi raximahullahu tacaala inuu maskaxda ka shiilay in xal loo keeno muslimiinta dhibaatada haysata oo ay ugu weyn tahay sidii la isku waafajin lahaa waxa la yidhahdo naska iyo waaqaca asaalada iyo mucaasarada dad muslimiina oo la nool mashaakilka ayaga hor yaalla ee aan keliya ku fakarin waagii salafkii iyo cusuurtii tagtay iyo keliya wixii waagaa la yaqaanay waxaana isleeyahay waa akbar taxaddi oo maanta dadka muslimiinta haysta dadka shiikha jecel iyo maxaan ku yidhaahdaa iyo ardadiisii iyo ardadiisa kuusii ah iyo waxa inaga dhanna noo yaallo waxa waaye waa islaamka sidii nolosha loo maaragtay loo waafajin lahaa dadka muslimiintana khayriyadooda iyo ummadnimadooda iyo waxtarkooda caalamka kale ee xiwaarka xadaariga kula jira loo fahamsiin lahaa looga dhaadhicin lahaa innaga mashaakilka aan la noolnahay oo inagu nafteenna iyo bini'aadamnimadeena tafsiirkeena sida tacasubka iyo mashaakilka faraha badan iyo nacaybka iyo waxyaalahaasna aanu duruus badan aan uga baran lahayn marka mar labaad iyo mar saddexaad aad baan idinku mahad celinayaa nin badiye iyo nin yaraya ma soo koobi karo runtii wanaagga iyo hadalka qiimaha badan oo mudan yahay markii hore waxaan ku bilaabay waxaan yidhi culuwun fi lxayaati wa fi lmamaati laxaqan anta ixda almucjizaati siduu nolosha macallin ugu ahaa ayuu geeridana wuxuu ku noqday runtii macallin duruus badan laga iibsan karo maalin dhoweyd markii aan maaragtay runtii geeridiisa iyo tacsidiisa ay isqabsatay baraha bulshada aniga twitterka iyo waxaas hadda maanan ma gelinin carabta waxay qoreen maana akrin facebook waxaan ka yaabay dadka soomaalida sida ay ugu tacsiyeen dhallinyarada asxaabteeda waxaan aqoonaya waxaan aqaanaba markaas waxaan ku sitaa inaan iraahdo bal arka qof ilaahay diintiisa bartay oo culamo ma ahane cid sidaas oo kale looga maaragtay tacsiyeeyo haddana waa gabadha waxaan siri markii uu dhintay hadraawi allah u naxariistee walow dee soomaali gudaheeda kaliya ay ahayd laakiin haddana waxaa siri qofka qiimaha leh ama shaacir ha aado oo maaragtay ama qof madaxa oo muslimiinta geesi ah wax weyn ugu yaala ha ahaado ama culamo ha ahaado cilmiga ka harqiyey ee ka haqabtiray ha ahaado qofka saamaynta leh ee muhiimka ah dhinac kasta saamayntu ha ka timaadee ummadda muslimka muhiim ayuu u yahay laa siyama weliba kuma sii jiraan dadka warasatul ambiyaa ee dhaxalka nebiga sallallahu ambiyada ilaahay ee cilmiga sharciga ah dadka xambaarsan saameyntoodu ayagu way kasii aad ay uga sii duwan tahay marka aad baan idiin salaamayaa wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baad mahadsan tahay qaadi maxamed jazaaka allahu khayran ilaahay ha idinku xifdiyo meesha aad joogtiin gabagabadii ayaan soo gaadhnay walaalahan aad baan ugu mahadinayaa hawada nagala socotay labadaa saacadood dhegaysanaya barnaamijka daawanayay runtii waxaan rabaa hadda inaan u ducayno dadka fariimo ayay soo dirayaan la xidhiidha bal dhibta dadkeena dalka ku haysata in laga hadlo billahi alkariim waa laga hadlaa meelo kala duwanna waa looga hadlaa laakiin waxay codsanayaan dadka qaarkood in culummada sidan oo kale la isugu keeno oo laga niqaasho waxna laga soo saaro dabcan sida hadda carabka lagu dhiftay culummadu ay sheegeen bashiirna uu kusoo celinayay in wax la soo saaro xoog inta la isku geeyo uu noqdo wax ku ool oo lagu dhaqmi karo oo lagu samayn karo dabcan aad bay dadku ugu celcelinayaan arrinta shabaab marka waa mushkiladaha ina haysata mid ka mid ah aafooyinka ina haysta mid ka mida weeyaan waxaan rabaa bal in uu sheekhu inoo duceeyo allaha siiyo sheekh cabdiraxmaan sheekh maxamed joogo
maqaasidigi uu baxay sheekh maxamed hadaanan soo noqon dhahaynin uu baxay marka uu ka dhacay sheekh maxamed sheekh aadan baa kuu joogay ducada ugu sii daadhe sheekh ustad jahar ducada sheekh maxamed aadan sheekh lagama le saas miya waayahay sheekh maxamed soo dhow sheekh maxamed sheekh aadan codku waa kaa xidhan yahay soo dhow sheekh xidhay codka wali waa ducaynaya inta codka weli uu kaa xidhan yahay doctor sheekh maxamed cumar wuxuu ii xasuusiyey waxaana xasuustay markuu hadlayey kitaabkii sheekha ayna alkhalal kitaabkaasi innaba caadi ma ahayn mid labaad baa jiro oo asaguna 30 sano asagoo jeexa maraya hadda 30 sano ka badan الاختلاف المذموم والاختلاف المشروع أوي يعني أمريكي هرا سماين عجيب وصل بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم والتفرق المذموم إنه بعادي ما هي بركة يعني بعد بما تقنع إلهي سبحانه وتعالى إلهي الشيخ ونحرسته دكتور كواك وصول بقاسيدي وكفى الله المؤمن القتال ساس بيها ما وضوط ما شيخ خلاص يا وات شيخ او ما خلاص وضوط هذا او قيمه تايمون او بات هذا او بات هو كلوين فدعي يلا دكتور هذا يعني صدق هذا يعني سنه دعي شيخ اسمع كلام شيخ اسمع بروحه ما قلت شيخ محمد يسوى هذا وحي اللي يجري بالقولين هذه محمد عمر رتي او بانه لكن دكتور تفضل ردوا ان شاء الله الله يبارك فيك محمد حاجد وشيخي اتحاد كان جيس افريقيا امانه ugu jiray waa هي waxaan aad buu la shaqeynayay marka mandubki way ha وانا شيخي الله يرلي تفضل شيخ نودوا على الدكتور عضو مجلس امناء ويان صفته امانه ما امانه way ka duwan tahay طبعا مجلس امناء waa jira amaana caamana way jirtaa ri'aasana way jirtaa saddex muasasay leeyihiin adiga amaanada kuma jirtin ya مجلس الامناء ugu guda weyn oo 40 ruux ka kooban kadib amaanaduna waa qaybta maamulka haysa oo sheekh cali iyo tiimkiisa waaye iyo ri'aasada oo ra'iiska iyo saddexda nuwaab uu leeyahay ah marka laakiin intaba majlisul umana bay isku yihiin oo isugu yimaadaan marka aanu cudub majlisul umana baan ahay iyo maktab qaran afriqi sulkiisa marka sheekh Abdurrahman baan sii ducada isyaana jirto wala kala isyaanaysan yahay moogti isyaanada muhiim ah sheekh Abdurrahman baan sii hanoo duceeyay sheekhana maxad ويا أوجا كور بريا الشيخ محمد حاجين مقاصدي قالوا كسو عليا إن شاء الله. هاي. شيخ أدبرك أنا وقتي مرك إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى مارتي يعني كلن كنا كلن بركيسن الله كدغو. آمين يا رب. إلهي سبحانه وتعالى في ميزان حسناتنا هكدغو أرنتن أن كجري كلن كان عبادة شيخنا ودعينا كلن تعسية كلن متقنا همومتي ومضى يا مشاعرتي marka ilaahay subhanahu wa ta'ala fi miisaan xasanaadina ha ka dhigo aamin sheekha Allah u naxariisto ilaahay sheekha naxariista janna Allah geeyo ilaahay qabrigiisa waa dhigo rawdatan min riyadil janna ilaahay maartay cilmigiisa annagana ilaahay subhanahu wa ta'ala ha nagu anfaco jidkiisa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu maray uu mataqana waxa la yiri dadka u khayr badan qofka u khayr badan waxa la waa man qofku umrigiisu dheeraado amalkiisana fiicnaado labadaas sifo kulansaday doctorku فلوس وأرضاوي عمر الدار يعمل في عن إله سبحانه وتعالى سيدا سوكل أننا هنو أرزاق إن شاء الله بارك الله فيكم إن شاء الله فضل دكتور الحمد لله ثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكم عدل فينا قضاء
نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وصدورنا وشفاه وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم وذلك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شيخني إمام كاني شيخ قرضاوي إلهي نحرسي جنة الفردوس هكا ورابيو إلهي dadkii wan wanaagsanaa oo ambiyada iyo shuhadadii iyo saalixiintii iyo sidiiqiinta ahaa ilaahay golaha ciliyiinta ha kula kulmiyo annagana ilaahay subxaanahu watacaala khaatimada ha noo suubiyo jannatulfirdowsana allah nagu kulmiyo xadrati nabiy sala allahu aleyh wasalam ilaahay subxaanahu watacaala sheekhaas hadda adduunya waa ka tegey camalkiisii adduunyada uu ku hayay ilaahay ha ka aqbalo khayrna ha uga jazeeyo annagana ha nagu anfaco wixii dhaxal ahaaye uu ka tegey noocuu ahaaba ilaahay subxaana watacaala ummadda ha u gargaaro masaa'ibta iyo cadaadiska iyo wax ay ku jirto ilaahay subxaana watacaala ha naga saaro ummadda islaamka guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan meel ay joogtaba dhibaatooyin badan oo kala duwan bay qabtaaye ilaahay bogeeda barcad ha isu mariyo khilaafka ilaahay wifaaq ha ugu bedelo colaada nabad ilaahay subxaana watacaala ha noogu bedelo abaarta barwaaqo ilaahay ha noogu bedelo maaragtay ilaahay subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa in uusan sheekhaa gadaashiina fitnaynin khaatumadana noo suubiyo axwaasheennana uu hagaajiyo wajazaakum allahu khayr baaraka allahu fiikum آمين يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا. إلهي سبحانه وتعالى دعاء ما أقبله فرينت أقول بيس عن إذن كذا تجيو طبعا رقم كي دكتور كان أدعيني وحكم إذا آيات القرآن كا إلهي سبحانه وتعالى إليها ولا تستوي الحسنة ولا سيئة آيات السفي عنها اللي تكدل تاو واحد أركي دونتا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلاقاها إلا الذين صبروا وما يلاقاها إلا ذو حظ عظيم إن بعادي ما مركات بدمها سنتين وقت دير عاوة أتكيستين إن لا صبرتين إن لا سوقيب كشين تعسدا آد بان إذنكم هذينينا ولا لها نلجوغي علومada iyaguna sabray ay waqti dambe u tahay ilaa waqtigaana la joogana aad bay u mahadsan yihiin saaxiibkii maxamed sheekh aadan baan u mahadinayaa ila hogaaminayay intaada gabagabeyn wax yar baan dhex gashanayaaye sheekh cabdiraxmaan baan baryahan meel aan ka raadiya la'aayon gaadgaaday iga fakanin baan rabaa markuu ka dhamaadaan soo qabto waan isku haraynaa insha allah jazaaka allahu khayr doctor intaasaan ku darsanayaa aad aad u mahadsan tahay qaadi cumarna waa maxamed cumarna waan u salaamayaa sidaasaan ku dhammaynay fi amaanillah jalse kale oo aan ummadda arrimaheeda aan kaga hadlayno waan isugu soo noqon doonaa biidni illahi alkariim laysma dhaaf insha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.